بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa inaan dhammaantiin idinku soo dhaweeyo fagaarihii kulankii 13aad oo aan nasiib ugu yeelin inuu ka dhaco Minneapolis Convention Center mahadoo dhan waxay u sugnaatay Ilaahay waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa dadkii qaban qaabadii barnaamijkan aad iyo aad nooga shaqeeyay oo ka mid yahay masaajid Abubakar Sadiq iyo walaalkeen Cabdiraxmaan Xidig aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo doonayaa inaan halkaan uga mahad celiyo culimada oo meesha ugu sareysa ka taagan bulshada qaybta doorka ay ku leeyihiin aad iyo aad ugu noogu weyn iyagana aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa walaalayaal sida la wada socotiin fagaarahan 13aad waa fagaare really qaas ah oo waqtigiisa taagan oo mowduucan ka hadlaynana uu yahay mowduuc aad iyo aad noo taabanaya sida la wada socotiin halgankii Soomaaliya culimada qayb weyn ay ka qaadatay laga soo bilaabo Saciid Maxamed Cabdulla Xasan 1899 ilaa 1920 waxa kaloo jira nin kale oo dhinaca Soodka oo halgamaa oo Sheekh Xasan Barsane oo mataqaana aad iyo halgankii Talyaaniga aad ula dagaalamay oo isku xilli ahaayeen xilligii Saciid Maxamed Cabdulla Xasan culimada mar walba waxay u taagan yihiin inay hagaan oo hagaajiyaan ummadda Soomaaliyeed maanta barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa doorka culimadu ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya oo la oran jiray Falatirtiin Cabdiraxmaan Axmed Aadan ayaa wuxuu iga codsaday waxaan doonayaa oofu bilaaxadina laxad kaana mas'uulan waayigan fagaari lixaad ama toddobaad mareeb wuxuu yiri fagaaraha 13aad waxaan doonayaa inaan furo marka lama joogo uu tagay Allah u naxariisto waxaan doonayaa inaan xuso mataqaana ninka walaalkeena haddana waxaan doonayaa inaan mataqaana ku soo dhaweeyo sheekheena mataqaana Sheekh Maxamed Idris oo barnaamijkan oo furi doona alxamdulillahi rabbil aalamiin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد وكما هتسيهم ولا لها سودياريي ولا لها كسو قيب قلي دمانبا وحن ليه جزاكم الله خيرا وحن رجينا إنه نغضوه كلا لغفا إذيستو dhammaanteenba kan wax sheegaya iyo kan dhageysanaya intaba mawduuca sida uu u dhigay walaalkay Sadiq laba ereyba waan ka maqlay runtii midda koowaad waxay ahayd hadalkii hore uu yiri waxaan ku niqaashaynaa meesha kooxaha diimeed doorka ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya markii dambena wuxuu yiri doorka culimadu ku leedahay siyaasadda Soomaaliya inkastoo laba mowduuc oo isku dhow yihiin haddana anigu waxaan ka jeclaan lahaa in la yiraahdo Soomaaliya ama qadiyadana Soomaali ahaan maxaa xal inoo ah xagee baan ka bixi karnaa ama musiibadan ama dhibaatadayna haysata sidee uga bixi karnaa qaabkeesa uga bixi karnaa ayaa igala munaasibsanayd waayo kala saaridda dadka iyada laftigeeda ayaa dhibaato noqonaysa midda labaadna su'aasha xoogaa waxba ku jiraya oo hadda de kooxaha ay yihiin maxay yihiin astaan gooniya qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed in la yiraahdo door ma ku leeyihiin iyada laftigeeda su'aal noqonaysa waayo qadiyada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo dhan inay ka dhaxayso ayay ila tahay sida asalka ah marka cid laga saari karo ma gooni looga maaragtay astaamayn karaa ma jirto sayirata inta haddaan ka soo gudbo waxaan leeyahay qadiyada Soomaaliya ama dadkeena Soomaaliyeed dhib baa in haysta dhibkuna waa jira waana waxaanu meesha u fadhino inaynu ka wada hadalno sidee looga bixi karaa taasana isleeyahay inay tahay arrinka muhiimka ah oo in la isku celceliyo
hadiya jeer inay tahay waayo su'aal dadku isweydiiyaan way ummadaho dhanna inay mudan tahay inay isweydiiyaan dib baa nagu dhacay dibkaasu sidee buu noogu dhacay xagee baan uga bixi karnaa xageese ayuu nooga yimi marka aan ka ambaqaado quraanka kariimka ah oo isagu annagu haddaan nahay dad muslimiin ah Soomaali ahaan asaas inoo ah waxa weeye haddii musiibo dhacdo dadka muslimiinta inay isweydiiyaan waa shay dabiici ah shay caadi ah weeye war dhibkan see u dhacay see uga bixi karnaa su'aasha iyadoo sidaas ah bay quraanka ku taallaa dadka muslimiintana dhibaato gaarto day waa inay u noqdaan asalka waxyiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee aan baatil iyo shaki meelna uga iman oo xaq ah أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إلهي سبحانه وتعالى وحليه هي مناسبتنا سببت وحيا هيد دقالكي مسلمين تا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قامين أحد سنة كيلوات كل عي لبعت بدن إني كسو قارتي صحابة بدن وأخيارتي الصحابة كم إذا تضواتنا يكون دنتين أي سويدين أن هذا سيدي كل عضي لبعت بدن حين وجود على دباتنا قاب كيس أوجا بحكرنا إلهي سبحانه وتعالى جوابتنا ووسيي حير النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحد كتر هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم دباتنا نفتينا أي كتمي سبب إذن كأدليهين أي كود عظيم مصيبة ذاس إذن كود عظيم saas darteed waxay ila tahay hadaynu inagu Soomaali ahaan anagu halka asaaskaas xaq ah ka ambaqaadeen hadaan isweydiino dhibaatada inagu dhacday qaran la'aanta ama qaran jabka burburka kala taga iyo dhibaatadii ka dhalatay oo dhiig iyo qax iyo baaba iyo dayacaad iyo dawlad la'aan إلى هذا الصعوطة ديجن ودايو أرنت حنون كبدن هذه جل سويدية ويتهاي هدان سويدنا جواب تساسون بين قنيسة يلا كوبن النجا أيا والصبابة بين قنيسة وحكى له توافروع النجا يا ساس نيالي يا فرقلين قسمي يا نقوله سامين وحصلنا ما فروع لكن النجا أصل نقولين ساس درتد أيام وحن جعلها إن نكسر دواله أرنت قمت هذا إن وحلا قيب صده هذا وحنا قلتها وقت كذا لما جاري سياسة حتى إن لا قيب صده أنا جوح قلتها وقت كذا إن لا جاري سومالدنا أي كهر دعيس هلا بدنا وان كشاجي واي وحى سياسة قيب صده dad is ogol dad wax ku heshiiyay dad wax ka dhaxeeyaan dad wax isla waafaqay isla ogolaaday ayaa wax kala qaybsada dad wax wada dhistay ayaa wax wada qaybsada dad isku kalsoon oo hal meel u wada jeeda ayaa markaa wax kala qaybsada dad hal meel wada jooga ayaa wax kala qaybsada laakiin dad aan kala wada joogin dad aan kalsoonidoodii maqan tahay oo aan isuba jooginba warba iska hayn dad aan meelba wada joogin ama meel aanay u wada joogin dii la yiraahdo waxa qaybsadaan waxay la tahay arrin aan meesha ku jirin inay tahay anu waxaan ku koobi lahaa haddii la yiraahdo marka su'aashaas dib aan ugu noqdo maxaa xal inoo ah sideese uga bixi karnaa dhibka Soomaaliya ku jirto marka aan soo koobo waxaan dhihi lahaa waa 4 qodob baa looga bixi karaa haddii ummaddu ay isku waafaqdo de ummaddu ogolaato ama laga helo anigoo ku eegaya
wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iga garansiiyo ama iga fahamsiiyo waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taariikhda ummadaha ama muslin ha noqdaan ama غayr muslimiin ha ahaadaan waayo basharku wax badan buu iska shabaha arrinka koowaad waxaa weeye toobadkeen xagga sharciga islaamka marka aynu nidhaah xagga bani aadamka xaggiisana waxa weeye aqoonsi dhib ka dhacay iyo ictiraaf inuu qofku ogolaado oo ictiraafo oo aqoonsado dhib inuu ka dhacay una baahan yahay inuu ka baxo oo ka noqdo oo ka qoomamayo arrinka labaad ama qodobka labaad oo afarta qodob waxa weeye kalsooni dadka Soomaaliyeed dhexdooda in laga raadiyo isu soo noqoto qodobka saddexaad leadership ama saddexda arrimood oo ugu weyn hoggaanka wax bedela ama ummadaha ka saara dhibaatooyinka ay ku jiraan sabab u noqda inuu ku hogaamiyo waa khasab in la helo hoggaan ummadaha ka saari kara waqtiyada shidada iyo dhibka hoggaanka saddex astaamood ayaa igula muhiimsan iyadoo ay badan tahay astaamaha dadka hoggaanka iyo leadershipka wax ka qora ama akhriya ama ummadaha dadka bedela ama wax u bedela ama u horseeda isbedel ay badan tahay islaamka iyo dadka aan muslimiinta ahayn intaba laakiin aniga saddex qodob baa igula muhiimsan oo markii aan soo gaabiyo da iyo ga iyo a noqonaya midda koowaad waa daacadnimo midda labaadna waa geesinimo midda saddexaadna waa aragti dheer oo mustaqbal hoggaanka saddexdaa astaamood leh waxaan isleeyahay hoggaan u sharaxmi kara inuu ummadaas markaa hogaamiyo midda afraad waxa weeye in si howlkarnimo iyo xikmad iyo xirfad ku dhisan ay u shaqeeyaan ama ummaddu markaa ay adduunka wax ula qaybsato afartaa qodob waxaan isleeyahay ay ugu horeyso toobadkeenka iyo horta in la ogolaado in dhib dhacay ama dadku ay ka qoomamayaan wixii ka dhacay haddaanay taas gaarin ama muslin ha ahaadaan ama yay muslin ahaan uma suurto gasho inay isbedelaan ama ay wax dhistaan waddankan aan joogno Mareykanka waxaan fiiriyay sawiradiisa civil war-ku markii uu ka dhacay 1896 ama 1861 dhehla sorry magaalooyin dhan magaalo anigu aan ku noolaan jiray Atlanta Georgia la yiraahdo magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka ka mid ah iyadoo dhan civil war-kaas waxa looga baxay in ay dadkii waddankan ku noolaa is ogolaadaan oo ku heshiiyaan inay wada noolaadaan maantana waxay maraysaa heerka aad u jeedaan kalsooni inay isu soo noqoto ama dadku is ogolaadaanna waa qodob muhiim ah bani aadamka oo dhan baa laga helaa haddana haddaynu fiirino xataa ummado kale aan muslim ahayn waxa wax ugu dhismeen waa inay kalsooni dhexdooda ah iyo ka noqosho inay heleen waxa inoogu dhow waddan yar oo inoo dhow oo genocide uu ka dhacay aan waddankeena ka dhicin dad aan muslimiin ahayn wada garanaysaan waa Rwanda waa waddan yar oo inoo dhow waxay ku heshiiyeen inay wixii hore ay ilaawaan oo beej cusub ay bilaabaan oo wada noolaadaan Hutu iyo Tutsi leadershipku waa muhiim ummadahana waxa bedelaha waa qiyaadadooda ama waa hoggaankooda hoggaan aan daacad ahayn ummadiisa iyo dadkiisa ay isagu naftiisa daacad kaliya u ah ama wuxuu doonayaa ummaddu haddaanay helin ma isbedeli karto mana hoggaamin karto hoggaanku haddaanu geesinimo lahayn ummadiisa uu go'aamo adag kaga gudbiyo ma gudbi karo haddaanu aragti mustaqbaliya oo ummadiisa uu ku hoggaamiyo oo hiraalah ma bixi karto adduun baynu ku noolnahay kaliyan ma noolin si xirfadaysan oo nasaaha leh in loola shaqaysto
oo loola macaamilay u baahan tahay intaa kadib saddexdaa qodob hore marka la helo taasna iima muuqato wax badan haddii aynu fiirino ummadda Soomaaliyeed marka aniga waxay la tahay anoo hadalka soo koobaya culimada kalena siinaya heer wax la qaybsado culimadu maxay qaataan ururada diineed ama siyaasiyeed ama qabiiladeed maxay qaataan ururada goboleed maxay qaataan waxaan ila tahay inaan Soomaaliya joogin heerkeeda horta Soomaaliya waa in la helaa dadka Soomaaliyeedna waa in la helaa hadda ma joogaan markii taa la helo ayaanu ka sheekaysanaynaa si wax u qaybsanaa wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka hore waxaan ku mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala in wada sii fursadan in cuquul isku timaado oo markaas isdhaafsato aaraa hadafka ugu dambeeyo uu noqon doono in ummad lagu badbaadiyo ummadda aan ka dhalanay intaas kadib mahad gaar ah Sadiq iyo barnaamijka fagaaraha sidoo kale mahad gaar ah masjidka Abu Bakr Siddiq iyo qabanqaabiyaasha mu'tamarkan oo barnaamijka fagaaraha qayb kamid ah caawa uu noqday intaas kadib waxyaalo qaarkood uu Sheekh Maxamed Idris uu sheegay waa ku waafaqsanahay waxaan isku dayayaa waqtiga dartiisa inaan ku soo celin doonin inay lama horaan noqoto maahine laakiin waxaan rabaa barnaamijkeedu wuxuu noqon doonaa sida soo socoto iyadoo kooban waxaan ka hadli doonaa waxqabadka ururada islaamka guud ahaan su'aal ayaa la isweydiiyey oo ah ma waxbay soo qabteen laba waxaan waayo wuxuu weydiiyey walaalkeena doorkooda muxuu noqon karaa ururada islaamka oo ku jeeda xalinta dhibaatada siyaasadeed ee Soomaaliya marka hore wax muu qabteen taariikh ma leeyihiin ay wax ku xalin karaan taas ayaa imaan karto markana taas iyadoo kooban inaan ka jawaabo markaas kadib su'aasha kale iyaduna waxay noqonaysaa oo nala weydiiyey oo aan rabo inaan toos u abaaro democracy iyo islaamka isla socon karaan ama dawladda Soomaaliya oo hadda aan wada ogolnahay dhamaanteen inay noqoto dawlad islaami ah oo shariicada ku xukunta in nidaamka democracy-ga ma wada socon karaan iyo qodob kale oo su'aalaha kamid ah ma loo ogol yahay sida walaalkeen uu weydiiyey dad aan islaamiyiin ahayn in wadanka ay ka taliyaan islaamiyiinta ma ogol yihiin su'aalahaasi marka horumar waxaan ka sameynayaa Sheekh Maxamed Idris uu sheegay markii aad rabto xal inaad raadiso waxaan ku waafaqsanahay maxaa dhacay in la isweydiiyo marka dib badan dhacay dahr al-fasad fi al-barri wal-bahr dib caamimay Soomaaliya oo dhan ayaa dhacay oo dhan kasta taabtay dhanka diinta dhanka siyaasadda dawladnimada dhanka dhaqaalaha dhanka bulshada dadkii walaalaha ahaa oo wada deganaa oo markay wax dhacaan xeer Soomaaliya xitaa ku xalisteen geed hoos fariisan jiray dhammaan dib ayaa dhacay marka su'aal ayaa la isweydiinayaa oo ah maxaa xal ah sheekh suu sheegay waa ku waafaqsanahay anagoo dhan culimadu isku waafaqsan yihiin markii dib u yimaado aayad ayaa hortaalo ah fafirru ila Allah ilaahay xaqiisa loo ordayaa marka waxa badan la isweydiiyaa waa maqalnaa taas islaamiyiintu waxay dhahaan inta badan al-islaam huwa al-hal islaamka xal ah bororkeena ku qoranta marka masar markaan joogaa wax ku baranaa waxay dhihi jireen islaam huwa al-hal waa nagu celceliseena wax practical ama tusin kartaan marka waxyaalaha oo mararka qaar kood islaamiyiinta la weydiiyo ama culimada ama ururada islaamka waxa kamid ah xal la taaban karo ma soo bandhigi kartaan marka hore dadka muslimiinta inay ku qancaan waaye inaysan u baahnayn nidaam kale oo aan ahayn kan islaamka qanaacadaasi waxay kamid tahay juz min al-aqeeda
haddaan ku qanacsannaha waxaan haysano oo diinta islaamka ah way nagu filan tahay inaan xal ka raadino meelo kale xal kama raadinayno mushkiladda soomaaliya haysata waxaa ka mid ah xalkaa waxaa laga doonaa xal waa la wada raadinayaa laakiin waxaa laga wada doonayaa meel aan sax ahayn ilahay wuxuu noo dhammaystiray kitaabka qur-aanka fii suurat almaa'ida aayadda 3 alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahay subxana wa taala wuxuu leeyahay waxaan idiin dhammaystiray diintiinni sida imaam bukhaari uu soo wariyey nin yahuudi ah sayidna cumar ayuu u yimid wuxuu ku yidhi qur-aankiina aayad ayaa ku taallo aayaddaasi haddiina loo soo dejin lahaa annaga yahuudda ah waxaan samaysan lahayn maalintaasi ay soo degtay maalin ciid aan ka dhigin lahayn culayska iyo miisaanka ay leedahay darteed markaasuu yidhi waa aayaddee marka aayaddan u akhriyay waa ninkii yahuud ahaa wuxuu gartay aayaddaasi culayska iyo miisaanka ay leedahay markaasaa wuxuu yidhi waxaan ogahay aan aqaanaa meeshay ku soo degtay maalintay soo degtay cabdullahi ibni cabaas wuxuu yidhi markuu aayaddaa ka hadlayay 2 ciid maalinteeday soo degtay maalin jumco ah iyo ciiddii carafada marka waa maalin weyn marka waxaa ula jeedaa aayaddaasi haddaan fahmin macnaheeda dhibka soomaaliya waxaa ka mid ah mushkiladaha soomaaliya xarakaadka maxay qabteen 5 waxyaalood waaweynay qabteen markii dhibka u dhacay 1991 oo cidna aanan qaban marka waxyaalahay ku faani karaanay ka mid tahay xarakaadka islaamka culummada islaamka oo la tuhmaya hadda ama farta lagu godayo maxay qabteen marka 5 wax waa soo koobaya kow waxay qabteen gurmad degdeg ay sameeyeen haddaa taariikhda aad akhrisaan ama wixii qoran aad baartaan waxaa arkaysaan gurmad kastoo degdeg oo dhacay 1991 laga bilaabo ilaa abaarihii ugu dambeeyey hay-aadka ugu badan inay ahayn hay-aad ay hogaaminayaan xarakaadka islaamka waa kow 2 sulxiya sameeyeen dib u heshiisiinay sameeyeen ay ka shaqaynayeen in qabaa'isha ay wada hadlaan ay wada heshiiyaan ma lagu guulaystay mise laguma guulaysan taas waa arrin meel taalla inkastoo ay caddahay asbaabaha inaan lagu guulaysan waxaa sabab u ahaa gacmo ajnabi oo soo farageliyey oo dhaheen anagaa idin heshiisiinayno oo horgoobay heshiiskii ay culummada wadeen wasulxu khayr ilaahay subxaana wa tacaala 160 iyo ziyaado aayado ah ayaa waxaa lagu xusay micnaha uu leeyahay heshiiska muslimiinta dhexdooda inama almu'minuun ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum laakiin lama raacin manhajka ilaahiga ahaa in lagu heshiiyo ilaa soomaaliya ay ka raacdo manhajkaasi dib u heshiisiinta annaga dhexdeena ah soomaaliya ma heshiin doonto waa mushkilad jirta iyada laftigeeda wayna daraaseeyeen culummada waa laga hor istaagay nidaamka dib u heshiisiinta in laga qaybgeliyo idan marka mashaakilaadka oo soomaaliya ama dhibka ku dhacay waxaa ka mid ah nidaamka dib u heshiisiinta saxda ah oo aan la marin laakiin culummadu way sameeyeen taas waa 2 3 culummadu waxay sameeyeen nidaamu tacliim markii madaaristii iyo nidaamyadii waxbarashada u burburay madaarisay sameeyeen waxaa xaadirtay madaaristooda iyo jaamacadahooda 100,000 oo aan ka badbadin ahayn jaamacadaha iyo madaarista soomaaliya ka jirta dugsiga hoose ilaa dugsiga sare inta badan waxaa gacanta ku hayo islaamiyiinta idan marka waxbarashadii oo burburtay waxbay ka badbaadiyeen waxay kaloo qabteen oo ka mid ah oo asaas ah inay ummad sii jirto dhaqaalihii waddanka haba yaraado shirkadahay sameeyeen xawaaladihii shirkadaha isgaarsiinta dhaqaalay abuureen iyaysan gaarin intii la rabay marka wax way qabteen intaas taas ayaan kaga baxayaa wax way qabteen marka ururadaasi marka maxay door ku lahaan karaan su-aashaas ay imaanaysa su-aasha marka waxaan sameeyey waa u dambaysiiyey si markaasi aan uga hormariyo horodhac ah waxyaalo siyaasadda arrimaha siyaasadda wax ma ka qabteen hal arrin sheekh waa ku raacsana oo ah haddii isbeddel raba in la sameeyo ummadda waa inay diyaar u noqotaa ay doonayso isbeddel inay samayso ilahay qur-aanku ku sheegay في سورة الرعد آية 11 لا يحير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نين عالم أو قراءة مركي هو إنجينير وها مركي دم بعلم الإنجينيرية كفى إدستي وهو استعماله علمي بلشدة
malik ibn nabi ayaa la yidhahdaa buugu qoray oo uu kaga sheekeynayo sababta loo gumaystay muslimiinta iyagoo haystay dhaxashii nabiga calayhi salaam in gaalo caddaan ah oo najaaso ka daadanaysa inay yimaadaan oo addoon ay u noqdaan maxaa sababay wuxuu yidhi iyagaa rabay in la gumaysto haddana hadday rabaan inay xoroobaan hadday rabaan way xoroobayaan sababto ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay in allaha laa yughayru ma biqowmin xataa yughayru ma bianfusihim iyaga inay isbeddel rabaan waay shacabka soomaaliya hadduu rabo nabad wuu helayaa shacabka soomaaliya hadday rabaan dowlad way helayaan shacabka soomaaliya hadday rabaan ciidan hufan oo xuduudooda ilaaliya way helayaan shacabka soomaaliya hadday rabaan inay shareecada ay qaataan way helayaan idan marka doonis inay jirto waa lama huraan culammada siyaasadda wax ma ka qabteen way isku dayeen wax ka qabtaan taariikhda soo xus marka taariikhdaasi asbaabta keentay ayaan ka hormarinayaa waxaa dhacday markii bilowgii 2006 culummadii abaabul sameynayso oo ka shaqaynayso inay waddanka nabad ku soo dabaalaan ayaa waxaa abuurmay koox la yidhaahdo kooxda la dagaalanka argagixisada oo qandaraas ku qaatay inay culummada baabi'iyaan qandaraaskaasna waxaa bixiyey CIA-da maraykanka documented waayo wax qoran waayo qoraal in ciddii rabta isbeddel soomaaliya inay ku samayso oo nabad ku soo celiso dowladnimo ku soo celiso iyadoo isticmaalayso nidaamka islaamiga ah in la baabi'iyo taasi ayaa waxaa abuurtay culummada isku tageen isbahaysteen ugu dambeyntii maxaakimtii ayaa samaysmay maxaakimtii waxay ka takhallustay Kofi Annan oo ahaa ninkii madaxda u ahaa maaragtay United Nationka hadal laga haya ayaa jira oo ah maraykanka khalad ayuu sameeyey inuu taageero nimanka dagaal oogayaasha ah oo intaasoo malaayiin dollar uu siiyo iyadoo xalka meel kale laga raadin karay isaga wuxuu rabay islaamiyiinta in wada hadal lala furo culummada kadibna markaasi xalkaasi meel macnaa su'aashan oo ah Soomaaliya federal system iyadoo shacab muslim ah federal system ma qaadan kartaa federal system oo hadda jira Soomaaliya muu u shaqeynayaa su'aasha koowaad federal system haddii shacabkay ku heshiiyaan Soomaaliya way qaadan kartaa laakiin su'aasha aan isweydiinayo waxa waaye shacabka Soomaaliyeed inay meel fariisteen sida sheekadaan ku raacsanahay oo ay wada heshiiyeen ma wada qaateen mise dirishada laga soo galiyay waxaan federalka la yiraahdo taas waa su'aal laba shacabka Soomaaliya oo ah shacab faqiir ah iyo dawlad hadda aan dhisnayn miisaaniyadda federal ay u baahan tahay ma qaadan kartaa federal waxay u baahan tahay dawlad sare dawlad federal ah dawlad la yiraahdo state government iyo dawlado hoose miisaaniyad noocaas oo kale dawladdeena ma kari kartaa iyadoo la masruufkana lagu gumaysto saddex federal waxaa samaystaa dad kala qowmiyada ah dad kala luqada ah dad kala diin ah dad kala dhaqan ah annagoo hal diin haysano annagoo hal luqad ku hadalno annagoo hal qowmiyad ah federal ma u baahannahay ugu dambeyntii federal definitionkiisa haddii la fiiriyo waxay noqonaysaa gobol walba goonihiisa hasu maamulo isagoo dowladda dhex hoos imaanayo shan ma qaybsanto shacabka Soomaaliyeed federalka ma fahmeen waa su'aasha shan ma qaybsanto xawla jeeda qawaaniinta federalka dad akhriso shan lama qaybin karo militariga lama qaybin karo dowlad goboleed military ma samaysan karto hadda Soomaaliya gobolada hadda jiro dhan gobol kasta military uu samaystay oo waxay khilaafeen federalka laba federal government foreign system oo madax banaan ma samaysan karto ana waxa la jeedaa Soomaali nidaam arrimaha dibadda ma samaysan karto oo waxa u maamulayo federal waxaad arkaysaa madaxweyne goboleed u dhaqmaa inuu madaxweyne yahay oo wadan kale inuu tago heshiisyo la saxiixanayo federal ma tahay waxa kaloo federalka uu diidaya federal systemka in nidaamka post systemka inuu noqdo nidaam gobol uu leeyahay waa inuu noqdaa iyadoo waxyaalo badan la fiirinayo caam ah hadda nidaamyada post system gobolada samaysmay iyaga gooni ula tahay marka idan waxa arkaysaa inuu jiro saddex shay oo ah confusion in la fahmo confusion madax wareer in lagu dhaqmo iyo shacab maskiin ah oo waxaan dhan aan kala fahamsaneen oo dusha laga saaray waxaysan qaadi karin
idan marka xalka xaguu ku jiraa xalka wuxuu ku jiraa inaan wada doonno anagoo wada soconno culumo ciroole waxgarad haween dhalinyaro markaas kadibna si cadaalad ah loo doodo oo loo sameeyay dib u heshiisiin anaga aan leenahay ma aha dib u heshiisiin dibadda laga keenay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وهرينتي وحان وما دعلنا برنامج كان فقارها وأساسي صديق وفاء runtii dadkii lagu furayna waa ka mid ahaa fagaarayaasha u horreeyey aad u mahadsan yahay dadka soo qabanqaabeen aad u mahadsan yihiin oo kale masaajidka abubakar aniga imaamkaan u ahay iyo golaha imaamiyada oo shirkan qabanqaabinayay runtii su-aasha waxaan isku dayaa meelihii culimmada ay ka hadleen iga horreysay sheekh maxamed idriis iyo sheekh xasan jaamici inaan xoogaa aan waxaan is leeyahay waa ka dhiman yihiin inaan anigana buuxiyo insha allahu tacaala si hadalku idinkugu noqonin celcelis u noqonin horta waxaan rabaa inaan sharxo waxaa aada loo maqlaa islaamka siyaasiga ah islaamka siyaasiga dowrkee ku leeyahay ummadaha muslimiinta inuu xukumo waa su-aal maaragtay aada loo marka dadka islaamkan siyaasiga muxuu yahay aaday ugu wareeraan waxaan rabaa inaan xoogaa u sharxo islaamka siyaasiga maxaa loola jeedaa islaam waaba la gartay laakiin siyaasa maxay tahay islaamka siyaasiga waxaa loo jeedaa islaamka rabo in islaamka uu xukumo nolosha oo dhan kulligeed nolosha oo dhan ma ay siyaasadda ku jirto oo aanan laga saarin diintii aan laga saarin nolosha dadka qayb ka mid ah oo aysan shaqo ku lahayn macnaha waa sidaas islaamka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina bani israa'iila kaana tasuusuhum alambiyaa reer bani israa'iil waxaa hogaamin jiray maamuli jiray nebiyaasha ilaahay marka siyaasa waa maamul diinta markaa islaamka waxa ereygan keena islaamka siyaasiga waxaa loo jeedaa muslimiinta culummadu waxay rabaan islaamka inuu udkhuluu fi silmi kaafa dad islaamnimada waxaad u gashaan si buuxda u qaata islaamka siduu ahaan jiray ilaahayna uu u doonayo subxaanahu wa tacaala maxay tahay nolosha oo dhan islaamkaa xukumo ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin noloshaada qayb kastoo ka mid ah islaamka ha xukmiyo qaybna ha qaadanin qaybna ha ka tegin arrinka la sheegaa waa arrinka dadku waa ogol yihiin masalan salaada waa la ogol yahay in aad tukatid zakada waa la ogol yahay xajka waa la ogol yahay waxaa la ogol yahay nikaaxa waa la ogol yahay diinta islaamka inta ku soo aroortay oo dhan in lagu dhaqmo waa la ogol yahay laakiin siyaasadda inuu xukumo islaamka ma ogola dadkii siyaasadda inuu xukumo siyaasadda macnaheedu waxa waa in dadka loo ilaaliyo diintooda iyo adduunyadooda labadaas loo ilaaliyo labadaa markaa in loo ilaaliyo ayaa siyaasad leh wax kale ma aha dadka diintooda in la xifdiyo iyo noloshooda oo islaamka daruuriyaadka shanta ah islaamku wuxuu leeyahay shan shay oo daruuriyaad ah oo islaamka bays u ah oo diinta islaamka oo dhan ku biyo shubanayso shantaa daruuriga waxaa ka mid qofka diintiisa in la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo in nasabkiisa in la ilaaliyo maalkiisa in la ilaaliyo naftiisa in la ilaaliyo cirdigiisa in la ilaaliyo diintiisa in la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo
oo laga ilaaliyo daroogada iyo khamriga iyo waxa fasaadka ah maalkiisa in la ilaaliyo hantidu tabcada qofka in la ilaaliyo in la ilaaliyo nafsadiisii nafta ugu weyn in la ilaaliyo waxa ka hor in la ilaaliyo cirdigiisii sharafka uu qofka leeyahay in la ilaaliyo diinta islaamkuna intaasi ilaahay u soo dejiyay subxaanahu wa tacaala marka inta qarniyadii hore islaamka intaasoo dhan waa xukumayay laakiin waqtigii muslimiinta la qabsaday isticmaarka uu qabsaday 1884kii markii muslimiinta la qaybsaday khilaafada islaamkana kadib ay duntay kadib waxa la keenay in isticmaarkii ka saaraan qaybtan siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo calaaqaad dawliga iyo waxaas dhan laga saara diinta aysan xukumin oo yaa xukumayo wax kala hal la keeno culimadana waxay leeyihiin maya islaamka u gala udkhulu fi silmi kaafa muslimiinana anaga islaamka lagu xukumo siyaasadeena waa inuu islaamku xukumaa dhaqaalaheena waa inuu islaamku xukumaa nidaamka wuxuu islaam beec u leeyahay baabul beec leeyahay afarta rubuc oo kitaabka fiqiga waxa waa cibaadaad iyo nikaax iyo beec iyo jiraaxa afartaas waa cibaadaadka waa salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka afartaas waa cibaado kuwa kala dhan waa yihiin laakiin afartaas u bixiyeen si dadka loogu fududeeyo waxa ku soo xigay nikaaxa guurka iyo furiinka iyo waxa la xiriiro waa labo kan saddexaad yani waxa waa beeca iyo mucaamalaadka wax kala gadashada islaamku wuxuu leeyahay nidaam dhaqaale oo dhameystiran uu leeyahay oo ilaahayna ka xarimay subxaanahu wa tacaala waxyaalaha qaarkood inta kalena loo fasaxay beeca iyo qishiga iyo qararka iyo khiyaanada iyo waxaas oo islaamka xarimay beec nidaamkii beeca islaamka waxa la rabaa in beeci lagu xukmiyo waxa soo haray jaraaxada qaybta jaraaxada waxa loo jeedaa wixii dadka kala gaar haday isdilaan haday isdakhraan haday isdaawacaan waxa la wixii maaratay ay isu geystaan islaamku waa qaybta jaraaxada qaybna xukumayso marka qaybtii siyaasadii ku saabsaneed ee nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo ambiyada ay xukumayeen dadka noloshooda siyaasadda islaamka uu xukumayo lagu xukumayay ayaa waxa la yiri dadkii lahaa oo ugu yeeray dadka ayaa waxa loo bixiyay islaamka siyaasiga aadna waa loola dagaalamay runtii waa la dulmiyay dulmi badana ku dhacay inta kaliya yiraahdeen marka ilaa qarnigan bilowgiisa inta waa la leeynay Jamal Abdel Nasser Allahi dadkii nimankii ikhwaan muslimiin xabsiyadu ka buuxiyay oo akhrin karta kitaabka leeyahay al-Muqawwam Muslimin fi Sujuun Nasir waxa wuxuu ku sameeyay bashica oo adduunka aan la arkin ayuu ku sameeyay dad iska laayo boqolaal iska dilo bacaa saxaraha lagu soo duugo wax kasta lagu sameeyay Soomaaliya marka u nimaadna insha Allah taala hoos marka ugu soo islaamiyiinta Soomaaliya intaas un bay lahayn iyagana dawladii kacaanku ka horreysay intoodaga ahayd culimadu waxay lahaayeen war islaamka shariicada islaamka hal la xukmiyo shariicada hana xukunto kulligeen oo dhan madaxdeena siyaasadeena dhaqaalaheena salaadeena masaajidkeena xoolaheena kulli hana xukunto shariicada intaas lagu dilay iyagana waa lagu dilay culimada waa lagu laayay culimada ama dhaqdhaqaaqyada islaamiga ah ma aysan sameeynin jabhad ayaga ma furin ayagoo dib ku dhacay oo xabsiyada ay ka buuxeen oo lagu xiray inta kaliya waa garanaysaa intii dilka lagu xukumay intii la dilay ayagoo xabsiyada ka buuxaadana waxay ahaayeen dadka culimada ah waxay ahaayeen kuwa ilaalinaya maslaxada guud ee wadanka wax kasta ha noqdaane waxa garanaa gabdhaha aniga isku kalaas ahayn oo iskuulka iskala baxnay jaamacada ay dhiganayeen xijaabkay qaateen kaliya xijaabkii ay xirteen lix gabar yahay jaamacada la fala laga ceeriyay maxaa loogu ceeriyay waxa xijaabka dhiga ama jaamacada wala idinka ceerinaya waa joogan qaar hadda jooga gabdhihii waa nool yihiin hooyooyin waan qaarkood jaamacada waxa loogu yeeray xijaab ay xiran tahay bas she is not ma aha arday failed ama aha she is very successful waa educated waa qof wax garad ah waa qof bas inay xijaaban tahay kaliya jaamacada looga raacday intaasoo dhib ayadu ku dhacayeen haddana islaamiyiinta wadanka waxay fiirinayeen maslaxada entity-ga wadanka ammaanka wadanka inaan maaratay la burburin
jabhad ma samaynin uma baxin bannaanka sida jabhadaha faraha badan ee samaysay waagii dambe sida sheekh xasan jaamici uu sheegay waddanka markuu burburayna waxaan garanayaa wadaadada inay shireen markii ay dowladda dhici rabtay war maxaan samaynaa inay la yiri war maxaan samaynaa culimadu isu yimideen war see waddanka waa dumi rabaa xoog jabhado qabiil ku dhisan oo kala markii dambena waxay isu bedelay qabiil dagaal qabiil isu bedelay wadaadada wax kale ma qaban waxay qabtay war tacliinta aan wadno maaragtay inaan ilaalina xataa dekedaha qaarkood aan wadno jaamacadihii inaan wadno waxaan xusuustaa jamciyad aan asaasnay jamciyadda mashaacir alkhayriya la yidhahdo waa jirtaa hadda ilmo agoomahan ku ururin ilmihii dagaalka civil warka ku dhacay ilmihii qaaran xataa aabbahood garanayn waa dhintay aabbahoodii hooyadood ilmaha xataa ma garanay qaaran looga cararay ama xabad ku dhacday aabbahoodii hooyadood waa soo qaadnay waa xaraynay agooma waa hadda waxaa cajiib ah ilmahaas qaara hadda jaamacadaha ka baxay waxay islaamiyiinta ka shaqeeyeen waxbarashada iskoolaadka dhisnaa iyo jaamacadaha hadda dhisan waddanka from ges to ges dadka sameeyey oo dhisay waa wadaadada waa culummada intii dagaalka socdo civil warka jaamacadaha ku yaallo maalin dhaweyd shir aan ka qayb galay oo isugu yimideen jamciyaadka khayriga ah 720,000 oo agoommo ah ay ku jira xeryaha agoommada ku jira jaamacadda bari jaamacadda muqdisho jaamacadda banaadir jaamaca alislaamiya fi muqdisho jaamacadda hargeysa jaamacadda burco rag asaas oo dhan waa rag wadaada ah islaamka marka siyaasiga ah dhibka muslimiinta ku dhacay maanta masarna waa saas oo kale ku dhacay marka waxa ummadda gaaba u dhaxeeyay waagii hore dadka wadaadada iyo dadka waa lagu diray laakiin markii dambe hadda waa la ilaa dadkii oo dhan ay noqdeen dad islaamiyiin ah kulligood ay noqdeen islaamku waa rabnaa xagee u socotaa islaamku we wanted the islam islaamkaan rabnaa annaga marka islaamka xal ma yahay mase xal ma aha qadiyada maaha qadiyada islaamku waxa waa annaga muslimiinaan nahay islaamka oo dhanna waa dabaqaynaa waxyaalaha mushkilada taagan waxaa ka mid ah oo shucuubta maanta dowladda muslimka haysto in waxa ayaga ay rabaan inaysan isku dhaqi karaynin ilaa in loo soo yeeriyo bannaanka laga keeno ma ahay dhibka inta badan xataa tadarufka maanta jiro oo xagjirnimada jirto shabaab iyo waxa kale jira ama takfiirka waxyaalaha tadarufaadka jiro waxaa keenay waxaa sababay dulmigii ku dhacay dadka islaamiyiinta ah kaasaa keenay yacni hadda maxaa lagu xirxirayaa masar doorashay galeen dimuqraadiyada sheegayaan westiga ayay waafaqeen ayay yidhaahdeen bal saan haddii xal uu ku suurtoobayo halkaan aan ka galno bal sidii xal moodan inay dan tahay halkay ka galeen doorashadii ku guulaysteen nidaamkii maqaayiistii oo dhan maalina xabsi laga buuxiyay ilaa hadda 500-600 dil lagu xukumaya caalamkana waa fiirsanaya marka saasoo kale islaamiyiinta Soomaaliya dhibka inay dadku wax tareen ma ahee muddadaas civil warka 22 sano qabiilka lisu xaaqay lisu laynayay waxay ay dhisayeen ummadda ayay badbaadinayeen inta wax baratay wadaadada aniga waxaan ka baxay dugsi hoose dugsi dhaxan ka baxay dugsi sare qoladii tiib English aan ahaa tiib English aan ahaa ka baxay Talyaaniga anagu horreeyay tiib Talyaani tiib English tiib Soomaaliya saddex tiib isku xigtay waa u sarfigareeyay militariga sawaariikhda ciidankii difaaca kan ka mid ahaa saraakiisheedii soo bartay sawaariikhdii waddanka ugu dambeysay oo waddankeena la siiyay jaamacadda beeraha waa ka baxay education waa ka shaqeeyay ilaa dhowr luqadood 3 luqadood oo ku hadlaa waddanka waxba kama qaban karo yani wali oo kale miyaa wax saygu way aragsan yahay nin aniga dhinac walba loo kaco field military hadii loo kaco ayka field agrarian hadii loo kaco beeraha hadii loo kaco agrarian ka baxay jaamacadda agrarian qayb Talyaaniga beeraha wax soo saarka iyo miraha iyo
يعني cudurrada beeraha waa ka shaqayn karaa intaajka waddanka waa ka saari karaa diin haddii loo kaco wadaad PhD aan ku haystaa diinta marka insha Allah taala xalka waa islaamka جزاكم الله خير وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكالم هذا ودن نعموين كي سواوين ونوغلي إن كوبي كرين بعد الله وحامهد آذو بلارن إسكاله قبن قابياشا برنامج كان فقارها oo sida culimadu ay u tilmaameen uu ku caanbaxay oo aas-aasay walaalkeen saaxiibkay Saadiq Warfa jazaahullahu khayran iyo sidoo kale masjidka Abu Bakr as-Siddiq iyo golaha isu taga imaamiyada oo iyagu kulankan runtii sababay kulanku uu jiri jiray waa kii 14aad laakiin sanadkan wuxuu dheer yahay inay ku dhex dareen barnaamijkaas mufiidka ah intaas mahad celida kadib waqtiga runtii la qabtay uu yaryahay hadaan wax yar kaftana hormariyo waxaan rabaa inaan dhawshay Cabdiraxmaan Sheekheena fidahullahu ta'ala laga bilaabo hadda waa noo musharax insha Allah ta'ala wamaqlayseen aad waana astaahilayo runtii sabab waxay dhahdaa hadii lagu sheelo waa la isa sheegaa hadii lagu sheegana waa la isa sheelaa yaani maartay waa ma jirto way anigu runtii mar raba inaan ku dheeraado mawduuca intii culimadii hore ay ka hadashay oo mareen inaan dib ugu noqdo mar rabo maadaama waqtiga la xadiday waxaan rabaa kaliya dhowr qodob inaan isdul taago qodobka koowaad kooxaha diinaha horta koox diineedku waa kuwe culimada ka hadashay koox diin in la sameeysto ma saxba ama waa khalad dadka in badan oo kamida ama qaar kamida waxay u arkaan arrin xaraana oo jariimo ah inuu qofku koox diina u nasab sheegto laakiin runtii sida ayada sax ma aha islaamka sida hadda culimadu ay ka warameen wuxuu lahaa xukun madax dad umara oo xukuma khilaafadii ugu dambeysay ee islaamka waxay dhacday sanadkii 1920 magaalada Istanbul suldaankii u dambeeyay suldaan Abdulhamid buu ahaa dawladda Uthmaniyiinta wixii ka dambeeyay يعني ما تشرين هجان جود أما قائد جود أو ضدك مسلمين تعمدي ما تشرين مركز نمك ضدك العلم جامع علماء أها وحي سكود ديان وحولين إن أي ضدك الدين تودي أسر عليان نظام يسيستم دولي هو أو ضدك أودي سنة ما تشرو تامر كظروفتي وحي كانتي إن الله سمايه يعني محام كراضاي كوحو إن علماء السوتجان ay samaystaan nidaam ay maxaan ku raadayay ummadii marka sida diintooda ugu badbaadiyaan marka jamaaca ama koox diineed qofku inuu ka mid noqdo wax xaraana ma aha waa nidaam loo marayo dadka muslimiinta diintooda in loo badbaadiyo shardigu waxa weeye qofku inuu wax islaaxinayo taa insha Allah ta'ala waa qodobka labaad waxa weeyaan culimada markii la dhaho culima waa ayo dowrka culimadu ay ku leedahay siyaasadda bay arintu ahayd culimadu waxa way qofka caalimka ah waa qofka diinta islaamka shariicada bartay kuna amal falay dadkana ugu yeeray halka waxa ka baxayo yaani dad magac culimo sheeganayo laakiin magacaas wax ku kharibayo waana tii hadda Sheekh Abdurrahmaan uu ka hadlayo waxay keeni kartaa dadku inay isku xambaaraan magacii oo dhan in badan oo runtii dadka kamid ane culimada uma kala saarna qofkii hadla ama maxaan ku iraahdaa marka ay si uun u arkaan iyaga agtooda waa culimo marka masalada iyada runtii waa mid baraarujin mudan oo dadka culimada ah had iyo jeer dadka kale in laga ogaado masaladana muhiim weey haddaan soo laabto siyaasadii waxay ahayd waa laga hadlay siyaasaddu markii la soo ururiyo waa dadka in adduunyadooda iyo aakhiradooda loo ilaaliyo oo loo maamulo islaamkana la yimid nabi maxamed baa hogaaminayay dawladii ugu horeysay islaamka
markuu dhintayna khulafadiisii raashidiintaabaa ku xigay oo uga dambeeyey way sii socotay islaamka adduunkan maamulayay waxaa ku xigay maaragtay dowladihii ama dowladdii umawiyiinta tii cabaasiyiinta casrigii maxaan ku mamaaligta cuthmaaniyiintii ilaa gayri dalik culimadu markaa dee markaa iyada dowrka ay ku lahaayeen muxuu ahaa ummadda iyagaaba hogaaminayay oo hogaankii u hayay haddii dowladdii islaamiga ahayd dhacday haddana culimmadu waxay u istaageen hadba intii ay qaban kareen oo intii laga soo sheekeeyey iyo in badan oo ka mid ah maalan xataa waqtigii dowladihii islaamiga ahaa kuwii maaragtay umawiyiintii culimmada muslimiinta marar badan oo lagu soo duulay muslimiinta iyagaa dagaalka hogaaminayey iyagaa ummadda hagayey iyagaa nimankii xukaamta ahaa midaynayay oo isu geynayey sida maxaan ku ihahdaa andalus iyo waqtigii dawaa'ifta culimmadii waqtigaa joogtay dowr weyn bay ka ciyaareen siyaasaddii inay dadkii mideeyaan nimankii kala tegay oo mid walba mamlaka uu meel ku xirtay inay isu keenaan inay maxaan ku ihahdaa ummaddii markaa masaalixdoodii sidaa uga shaqeeyaan laga soo bilaabo waqtigaas sidaa unbuu dowrku culimmadu musalsal u ahaa hadba waqtigii la joogo iyo casrigii la joogay saadiq baa runtii ka sheekeeyey markaan ummadda soomaaliyeed usoo noqono taariikhdeedu waa taariikh diineed wey dadkii hogaamiyeyaalka diineed ahaa nimankii ixtilaalka la dagaalamayey isticmaarka ummadda ururinaya o isu geynayey kulli markaa taariikhdooda dib u eegtid waa dadkii culimada ahaa wey dadkii culimada ahaa ilaa waqtigan hadda laga soo gaaro ilaa waqtigan laga soo gaaro waxay ka shaqaynayeen ummadda diintooda iyo dunyadooda in loo dhowro haddii la soo qaxay oo waddamadan la soo aaday haddii waddankii la joogay waad ogtihiin maraakistan islaamiga ah maraykanka ka jira yurub ka jirta africa meelo badan oo ka mida ka jirta yaa aas-aasay yaa wado yaa u taagan waa culimadii wey dalkii haddii aan soo qaadano waa sidaasoo kale qalooca diineed yaa la dagaalamayey yaa ummadda manhajka saxiixa ah ee saxda ah ee ilaahay iyo rasuulkiisa waafaqsan qur-aanka iyo sunnada yaa u tilmaamayey waa culimadii wey in badan oo ka mid ah u dhimatay oo loo dilay oo hadda sheekh cabdiraxmaan uu ka sheekeynayey doctor axmed caaji cabdiraxmaan waa la dilay maxaa loo dilay ummadii buu u ilaalinaya maslaxadoodii diintoodii ummadda wax loo ilaaliyo oo loo dhowrana diinta ugu weyn ugu muhiimsan sheekh cabdiqaadir nuur faarax profesor cadow waayeel maxamed tahliil wagayrihim min alculamaa yacni dhammaan waxaa runtii la dilay ama ay u dhinteen iyaga oo ummadda badbaadinayo oo diintoodii iyo dunyadoodiiba u ilaalinaya sidaa darteed waxaan kelimadeyda kusoo koobayaa waqtiga iga dhammaaday dartii ummadda waxaa la dhihi karaa madaxeedii madax markii dadka laga dhigo hal qof ah waa culimada weeye badbaadada maanta waxay ku jirtana waxaa weeye runtii in culimada ayada ah lagu xirto oo la raaco oo laga tala qaato yacni xukaam ahaan iyo shucuub ahaan intaba jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib insha allah anoo waqtiga ka faa'iidaysanaya saddex qodob baan rabaa inaan wax ka ishaaro culimmadii iga horreysay iyo meelihii ay mareenna wax badan aana kaga laabanin insha allahu tacaala horta siyaasadda dee marka laga hadlo siyaasaddu waa diintii waa ra'sigii ugu sarreeya weeyaan waa meeshii rususha iyo ambiyada iyo culimmada weeyaan haddii maskaxda lagu hayo wax la yidhahdo faslu diini can dowla in diinta iyo dowladda la kala saarana islaamku mid ah ma qabo ayib haddaan marka usoo dego saddexdayda qodob midka hore waa dimuqraadiyada iyo islaamka ama shuurada ha la yidhahdo dimuqraadiya shuura ama in la yidhahdo dimuqraadiya islaamiya an waxaan oran lahaa halkaa in wax yar la qeexo oo waxoogaa la caddeeyay inay mudan tahay dimuqraadiyada sida laga dhawaajiyey waa laba kelimo kelimada hore ay cabirayso shacabka ama dadka kelimada labaadna ay cabirayso xukunka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa alxukmu lishacab aw linnaas haddii sidaa la yidhaahdo waxaa maskaxdaada isla markaa kusoo degi islaamku inuu yahay falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir
in alxukmu ila lilah wa xataa xukumka allah subxaanahu wa tacaala ee ka qaybgelin dad kale walaa yushrik bicibaadati rabbii axada yani inuu qof kala qayb galo waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun marka allah iskale xukumka ayib intaan markaan ka gudubno waxaan oran karnaa shuurada waxoogaa mararka qaar laga dhawaajiyey iyo dimuqraadiyadu ma isku mid ba waxaan dhihi lahaa maya isku mid ma ah yacni aan dimuqraadiya ha la qaato iyo islaam ha la qaato waa laba kale barnaamij laakiin labadooda naftooda in khaldi lagu sameeyo ma habboona haddii la fiiriyo dimuqraadiyada iyo shuurada wax yar 3 qodob baan ku farqin lahaa ama ku kala saari lahaa dimuqraadiyadu waxay ogoshahay masaa'il qatciya nas min alkitaabi wasunna sida aragtayba in laga doodo baarlamaanka iyo shacabku ay ka doodaan go-aanna xaqul ictiraad ay ka gaaraan oo ka soo saaraan ayib laakiin islaamku masaa-isha nusuusta ah waa musallam iyada lagama doodi karo waxaa midaas sii daba taalla shuuradu waxay ogoshahay wax la yidhaahdo ahlulxalli walcaqdi dadka shuuraynaya waa dadka aqoonta iyo xulka ee ku jira haldoorka dimuqraadiyadana waad aragtay qof walbaa ka qaybgelaya fusaaqba hadday rabto ku dhex jirta oo ka qaybgelaysa qodobka saddexaad oon ku kala saaraya waxaa weeye islaamka qofka xaakimka ah oo maamulaya oo ra-ayska ah mulsam kuma aha qasab kuma aha inuu dadka kala ra'yigooda qaato waxaa suuragala isagu inuu ra'yigiisu sadiid iyo toosan yahay iyaguna ay ku waafaqaan laakiin dimuqraadiyadu middaa ma ogola ee iyadu waxay ogoshahay aqlabiya iyo sawt in wax lagu kala qaado si aadba garanayso intaas markii aan ka gudbo ba waxaan qodobka labaad islaamiyiinta iyo dadka soomaalida ama hoos u soo degno islaamiyiintu waa magac guud annaga soomaalida anigoo waqtiga kasii faaysan baan hoos u soo degayaa xilligay bilowdeen iyo intay soo socdeen iyo siday ahaayeen runtii waa waqti wajiizoo kooban baaba la oran karaa waxaan aqrinayay islaamiyiinta soomaaliya kutub badan oo laga qoray taqriiban haddaad fiiriso dadkii ugu horreeyey waa dad hadda nool iyo dad hadda dhintay oo waqti dhow dhinta ayay ka mid yihiin sheekh yuusuf baa maaragtay hadda dhexdeedna fadhiya sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh maxamed idriis baa ka mid ah oo taariikhdu ay aada uga hadashaay oo qoraaladoodu runtii ay ku dhex jiraan islaamiyiinta soomaaliya markii la qeexayo sheekh nuur cali colow buu ahaa baan filayaa dadkii ugu horreeyey iyo sheekh cabdilqani oo xilli dhow ku dhintay wadamada khaliijka iyo sheekh maxamed nuur garyare iyo sheekh maxamed macalin iyo taqriiban waxaa la oran karaa waa ruwaadii saxwada iyo dadka islaamiyiinta ee soomaaliya xilligii ay la fiiriyo dadka hadda qaar nool yihiin qaarna ay dhinteen shawdka ay gooyeen iyo inta ay yani siyaasa ahaan gooyeen anigoo isku wada daraya ma kala saaraya islaamiyiinta anigoo isku wada daraya waxay gooyeen xilli ay ra-ays iyo madaxweyne noqdeen intaasay soo gooyeen durba dadka hadda awalkoodii nool yahay tusaale haddaan soo qaato nin diblomaasiya oo kenya u dhashay baa wuxuu yidhi 2006kii waxaa noo yimid 2005kii taqriiban nin dhalinyaro ah oo ka tirsan dadka dhaqdhaqaaqa soomaaliya xilligaa shir lagu qabanayay nairobi wuxuu damaa inuu ka qayb galo waa loo diiday inuu ka qayb galo والفيرسو بعد سنة 2006 طبعا وشريف نكان كهذايو شيخ شريف بعد 2006 با وحان يمد بول الصوماليا نينكي عن شركة وديدنا إنه كقيب قالوا أو الباب كيس اللي يدينا إنان قالوا ومدحوينا مركا هلكا شوط كتاب لهذا الإسلاميون من الهامش إلى مركز القمة أيها لو قري أو صومالي الإسلاميين تلوغا هذا taas marka waxay ku tusinaysaa inta ay showdka soo gooyeen iyo halka ay durba ay soo gaareen waxaan oran lahaa marka islaamiyiinta si guud haddaan u idhaahdo waxay xaqiijiyeen taqadum iyo horumar badan bay sameeyeen intii ay joogeen laakiin waxyaaba u baahan in la ictiraafaa jira yanqusuhum alkhibra waxaa khibrad iyo kaadirka waxa la yidhaahdo yani dad macrifo siyaasad dawliya u leh waxaad moodaa marka waxoogaa degdega baa jira degdegayaan marka lama gaarin baan isleeyahay
xilligii ay durba halkaa ay gaari lahaayeen waxaa ka fiicnayd in shacabkooda iyo dadka si fiican loogu dhex jiro oo la dhiso. hal waan ku waafaqsanahay sheekh cabdiraxmaan iyo midii culimmadu ay ka dhawaajiyeeno dimuqraadi iyo in hadda wax la xukumiyo in wax la raadiyo sidii sheekh maxamed buu warka ku bilaabay. xaqiiqatan hadda maanta in la raadiyo qofka masar iyo fiiri laba tusaale masar iyo xamaas markaad fiiriso kuwii hore iyo jazaa'ir iyo xitaa markaan iska daayo xamaas iyo masar keliya markaad fiiriso dadku adoo dimuqraadiya ku dhawaaqay wax walba sameeyey haddana inaan waxba lagu ogolayn meesha way taallaa. markaan waxaan is leeyahay hadda wax la isku daaliyo oo weynba meeshaas ma jiro markaad xaqiiqada aad u soo laabato. ugu dambeyntii insha allahu tacaala waxaan filay 5 daqiiqo ay dhiman. ugu dambeyntii insha allahu tacaala waxaan rabaa hadal yar inaan ku soo gabagabeeyo. hadalkaas oo tusinayo qofka muslimka ah mar warba yatatalla ila al-amaam inaad hor adiga naftaadu u sii socoto oodan ya'si aadan gaadhin. haddaan intaan idhaahdo masar baa waxaa lagu sameeyey xamaas baa lagu sameeyey dib adugu maanta waxba dan igama gelin يعني هلكا ما نكي وحيري بان في الإمر القيس بوها بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه ويقن أن لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر مركا قفك مسلم فهي مديس وإن السريس حلقة دواجيي إنه حليه نعم حديث باجر النبي عليه الصلاة والسلام وأرنيه وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد حدينا دتك مدحضة دينك إلهي يا كتابك إن نسكو دقين دحضوضة دقال يا فتنو يا أمان دري يلا دقا طبعا وحينا هيسته مشاكل كينا هيسته كم التهي حديث كان صحيح يا تلمامة يا إنه حل إنه يهي طبعا مركا أن لنا إسلامكو وحل وحوبة هي إن نقيحنا وإسلام كيف إنه يهي معناها جود إسلامكو سيدا أو شيخ عبد الرحمن مشايخ دي جهر يسبق التلمامين يسوى له عقيدة يسوى له عبادة يسوى له الرماد قالة يسوى له السياسة يسوى له الرماه بالشدة اجتماعية لنا عكستو أن لشة لقى أنجل كلا دونه إسلام كنوع عسى وإسلام كحلقة نقني ولذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها شريعة وحيرا وحا صورا بي حنبار سنيسا الإمام الأجري كتاب كيس الشريعة مركو ألفي كتاب عقيدة كهالليوها دين تبون أو بحيي وحلم إذا الراغب الأصفهاني مركو ألفي كتاب كيس الذريعة إلى مكارم الشريعة كتاب أخلاق ذا يقيم كي سلوكيات كهالليوها توحيا هيد وحكدا دعسن مبدأ عقيدة كدا دعسن إسلام كلاها الله إسلام كشمولي ما إسلام كان ضد يوغا قاركود أفسرنا إنه يهي جزئي أما قيب معين الله شكل إنه هجي أما مساجد إنه سنكسو بحينين واشو ألم ترى وصور دافتيبالي وإذا دادو هداي مولعيدا iyo masaajida kale ka hiraagi jireen oo halkoodu sida ah maya islaamkii saxda loo laabtay waxayna dabaqayaan islaamka shumuuliga ah ee gudaha weyn waxaan rabaa inaan tilmaamo macnaha guud laba group ayaa xoogaha si khalad u fahmay waana midda keentay in islaamku inuu xal inuu yahay la fahmi waayo ama la tabaqi kari waayo qolada koowaad waa nimankan liberaliyiinta ama calmaaniyiinta loo yaqaano secularka ah nimanka noocaas waxay u fahmeen inuu yahay tuquus muayana oo masaajida kaliya ay lagu tukanayo laakiin nolosha kale uusan calaaqa lahayn sidii ay oran jireen da'li lillahi ma lillahi wa liqaysar ma liqaysar waxa uu ilaahay leeyahay ilaahay si waxa uu qaysar leeyahay marka boqorkii talinayana oo arrimaha adduunyada ana u daa dhaqanka noocaas ka dhaadhacay lagu program gareeyay wax lagu baray kaasay la soo tageen mana u fahansana inuu yahay islaamku manhaj xayaa noloshooda inuu tabaqayo meesha way horta meesha ishkaalka uu ka yimid fahankaasi qaloocan markii bulshada muslimka la geliyay ayaa islaamkii dhinac la dhigay qolada labaad waa qolada quluwiga u saaxiibka ee tashadudka ee islaamkii oo dhan iyagina u fahmay inuu yahay xuduud iyo gacmo gooyn iyo jinaayad iyo cuqubaad inuu yahay nacam waa qayb diinta kamid oo muhiima rubac fiqiga rubac ugu dambeeyana waa لكن أول شريعة كله سدح ذي الربع كله أول ما سدح ذي قيبوض كله أول ربع وقدم بيمرك اللي ترقد قريني هلك وحي كنتي إن شريعة ذي ودم بلغت عقوبة إنيته ودت كل لقد عدعيه شريعة ذي هرمرك كينيس
oo waddanka amniga u keenaysa oo arrimaha bulshada ka qayb qaadanaysa oo developmentiga keenaysayba inaynan ahayn ay tahay shareeco dadka caqibayso ama cuquubo saarayso ganaxyana soo kordhinayso fahankan noocaas oo isna guraacan oo qalloocan marka uu yimid waxaa naga fogaaday arrinkii ahaa inuu islaamku xal yahay waxaan rabaa inaan tilmaamo qodobka odhanaya islaamku waa xal macnaheedu ma aha taqaaliidda iyo dhaqankii iyo kaljarkii soomaaliyeed ee wanaagsanaa inaan tuurayno maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa uu tilmaamaya inamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq waxa loo soo dirayba waxyaalaha wan wanaagsan inuu dhammaystiro in la hadmiye ma aha in zero laga bilaaba ma aha waana mararka qaarkood waxyaalaha soo degdegaya ee khitaabaadka la bixinaya islaamku zero waxba kama bilaabo wuxuu ka bilaabaya wixii dadka ay haysteen u jiro wanaagsanaana wuu qiraya kadibna halkaas ayuu ku dul dhisaya markaan leenahay islaamku waa xal macnaheedu ma aha inaan horumarka reer galbeedka iyo laga faa'iidaysanaynin bal waa laga faa'iidaysanaya waxa wanaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam khaatamkiisa ama uu ku khatmin jiray tiin barihii u lahaa waxay ahayd arrin uu ka keenay faris استراتيجيات كدجال خندق فارس بلغا كيني عمر رضي الله عنه مركو بلابي سيستم كان لوجودي وانجلينا يددك الدواوين تلي يراهدو او ريجستريشن سيستم كا دولته اي كو كلا هجان بلشدودا iyo arimahooda iyo qaybaha kala gadisan ee maxalliga shaqaalaha ama dadka waxa laga keenay Umar uu soo qaatay idan ma aha macnaheedu inaanan cid kale aanan waxba ka faa'iideysanin albaabada iyo daaqadaha oo islaamku uu xiranay fahankaasna isna waa fahan aan sax ahayn islaamku waa xal markaan leenahay ma aha macnaheedu in hal mar islaamku la fardinayo la dabaqayo waxa la ilaalinayaa sunnata tadarruj waana waxyaalaha ishkaalka keenay islaamku hal mar ma soo degin maraaxil kala gadisan buu soo degayay ala madaari 23 sana 23 sana ayuu soo degayay idan waxa la ilaalinayaa xaaladda lagu jiro waqtiga lagu jiro zamanka la joogo eriyada iyo makaanka la joogo waxyaalahaas oo dhan ilaalin ayay u baahan tahay waxaan isleeyahay islaamku waa xal waxaan u baahannahay si dhaba inaan u fahanno arrinkaasi waxaa sidoo kale u baahannahay war islaamkii zero kama joogno waan haysanaa waana dabaqnaa runtii qaybaha kala gedisan ee islaamku uu ka sheekeynaya cibaadaadka leh oo mucaamalaadkii qaybo badan ka mida leh oo fiqal usrihii iyo arrimihii maxalliga familka iyo ku saabsan leh arrimaha bulshada leh qiyamkii iyo akhlaaqiyaadkii leh intaba waa la dabaqaa maxaa inaga maqan qaybtii dastuurka ee hagayay maxaa la yiraahdaa siyaasadda waxay naga maqan qaybo dhamaystir waa arrimaha dhaqaalaha ee systemka uu ku fadhiyo dhaqaalaha inaan maxaa la wax ka toosino iyo waxyaalo kale noocaasa idan meelaha inaga maqan aan target gareyno waxaan aad ugu mahad celinayaa culimadu kaalmihii ay galeen waxa kamid ahaa in dastuurka Soomaaliyeed Sheekh Xasan Jaamici uu ka shanqariyo uu tilmaamay oo nusuus badan oo cadeynayso inuu islaamku saldhig u yahay Soomaaliya ay ku jirto haddana culimadu waxay ka soo saareen tiro maxaa la yiraahdaa bunuud ama nambaro ah oo shareecadu khilaafsan ilaa 12 baan filay mar 7 la yiri hadii la badiyo 12 inay gaaraan baa laga yaabaa inahaasa u baahan inaan target ka saarno focus ka saarno meelaha kale inoo hagaagsanna aan ka gudubno qodobka hadda inta uga tago culimadu dowr iyo kaalin ma ku leeyihiin arrimaha Soomaaliya طبعا waxaan rabaa inaan tilmaamo kaalintu waa laba nooc midna rabbi baa siiyay subhanahu wa ta'ala oo cidna ugama baahna markuu allah leeyahay wa atii'u allaha wa atii'u ar-rasuula wa ulil amri minkum ulama at-tafsir waxay ku tilmaameen ulul amriga inay culimada yihiin quraanku wuxuu tilmaamay markay arrimaha masiiriga istiraatiijiyaadka la rabo in laga tashado oo leh xaalad nabadgeliye iyo heshiis ama xaalad dagaal markay jirto in culimada laga talageliyo idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم سو ما جديد حدي لو علن لها علماء حلق وإيمان الله حلق وسهلنا لا لكن لو ما علن يو ما لك لا لقر توريا أو نمن كلو تيتلا كلا وتو أيا لا آذية ولو تيتلا بين علماء أي لقاتين سيدو شيخ عبد الرحمن وشيء يجيبه طيب وحالمي ذا ولا ليال إن علماء دور كودي تاريخي علماء واحد بدن كتل مامين رسولك صلى الله عليه وسلم أيا قائدك ومدها هجامية إنعك استوى الرماء سياسة قيب أي كتهاي إلا نبرشد بوليد روها خلفاء الراشدين تأيا كمدها مناصبتي عنك وحكمي ده منصب كلي شيخ الإسلام أو أها منصب كنت أدو سرية إلا الدولة دي عثمانيين تقار بدن
u dambeeyey ay soo gaartay mansabka waxay ku leeyihiin arrin ma jirto dowladda oo masiiri ah oo arrimaha xasaasiga taabanayso ilaa waa in lagala tashtaa sheekhalislaamka cariga sheekha ka ah wuxuu awood u lahaan jiray sheekhalislaamku xataa madaxweynaha iyo hogaanka sare inuu casilo waxaa ka mid ah raggii lagu casilay arrinka sheekhalislaamku uu casilay dowladdii cuthmaaniyiinta ibraahim khan alawalki saliim athalith muraad alkhamis iyo rag la mid ah kaalinta culimmada soomaaliyeed dabcan isticmaarkii waa laga sheekeeyey iyo dowrkii ku lahaayeen burburkii soomaaliya iyo arrimaha bulshada kaalintay ka qaateen waa la tilmaamay kaalintii dib u heshiisiinta la tilmaamay kaalinta hadda dastuurka iyo islaaxintiisa isku dayga ay sameeyeen waa la sheegay wahaakada sidaas si la mid ah ayaa waxaa la oran karaa ta'thiir ama saameyn rasmi ah iyo mid aan rasmi ahayn labaduba way sameeyeen hadday sidaa tahay oo dowrkaasi diintuna u ogoshahay waaqicina uu fardinayo maantu sida ay culimmada igu horreeyay tilmaameen ilaa heer madaxweyne ay gaareen oo weliba isaga soo dabalaabteen in la inkiro aan la ictiraafin gar ma aha gari allay taqaanaa waddanku waxa weeye dadku waa ka badanya haddii iqsaal lagu sameeyo waxaa ka dhalanayay su-aashii sida uu sheekh maxamed idriisba uu ku bilaabay nooc cunsuriyaa laga dhadhansanaya islaamiyiintu kaalin ma ku leeyihin marka la odhanayo nooc waxaa weeye midabtakoor ayaa meesha ka muuqanaya qodobkan ah xarakaadka islaamigu ku dheeraan mayo dabcan wax badan ayay geysteen oo culummada unbay ka shidaal qaadanayeen dowrkooduna waa waadix iyo urur diimeedyada waxaan rabaa inaan tilmaamo keliya laba qadiyadood qadiyadda koowaad oo urur diimeedka ku saabsan barnaamijka siyaasiga barnaamij sahlan maaha waa barnaamij lagu wasakhoobo waa barnaamij ishkaalaadkiisu uu badan yahay walidaalik waxaa muhiim ah inay focuska saaraan islaamiyiintu sida ay culimo badan ay tilmaameen xorriyaddan iyo dimuqraadiyaddan laga sheekeynaya liskuma ogola markaad ku soo dhowaatana canaasir baa lagugu kicinaya xalku muxuu noqonayaa xalku noqon mayo an fiiriyo caaqibada iyo ciribta oo runtii mas'alo sharci ah xadiiskii maalik cawf ibni maalik imaam muslim uu soo saaray markuu nebiga tilmaamay a'immadiinna waxaa ugu fiican kuwa aad jeceshihiin iyagana idin jecel waxaa ugu shar badan kuwa aad necabtihiin iyana idin necab waxay yidhahdeen miyaan la dagaalanaa nebigu wuxuu ku yidhi sal slam laa ilaa inta ay salaada oogayaan iska daaya haddaad dhinac kale ka eegto faasidka xilka haya in la casilo waa matlab sharci waa arrin loo baahan yahay laakiin hadday keenayso dhiig inuu ku daadanayo amnigii gacanta ka baxayo waa la xayiray waxaa la mid ah qisadii khadir iyo dhex martay ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri dad hanti ay leeyihiin inaad wax ku samayso ama ceeb u geysato ama aad qayb ka burburiso wax la ogolyahay ma aha laakiin markii ay noqotay in hantidaasi dadka laga qaadan doono xalkuna uu yahay xoogaha in la sameeyo waxa weeye ma'aalaadka noocaas ayaa loo baahaya islaamiyiintu inay si fiican ay u eegaan qodobka labaad aan raba inaan tilmaamo raalliga ahaado waxa weeye qodobka ku saabsan waxaan u baahannahay inaan kala soocno islaamiyiinta iyo ururo diimeedyada akhtaada ay geli karaan ilaan waa bashare iyo islaamka inaan kala socno ay noo kala xadidanta maxaa yeelay diinkan islaamiga naftirkiisa caalimku ama urur diimeedyadu waxaa laga yaabaa shaati uu ku shaqaysanaya waa noqon karaa qur-aankuna waa ka sheekeeyey licilmikum markii la tilmaamaya waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin masjid si dhiba loo sameeyey buu ahaa waana masaajid ogow ilaahay lagu caabudayo masaajidku waa geli kartaa qur-aanku wuxuu tilmaamay sadaqaadku in si cagsi loo adeegsan karo min alacraabi man yatakhidu maa yunfiqu maghraman wayatarabasu bikum calayhim addawaa'ir aayaddii waatay tilmaamaysay qaar odhanaya walayaxlifunna in aradna ila alxusna wanaagdoon baan nahay iyagoo aan wanaagdoon ahayn waxa weeye qaar odhanaya islaamnimadii sheeganaya oo dhahayo waxa weeye inamaa naxnu muslixuun iyagoo ah alaa inahum hum almufsiduun idan shaatiga waa la xihan karaa in ay noo kala soocan tahay war maxaa islaamow sax aan u baahanno xal inoo ah iyo dadka matalaya oo khaldami kara ama ku shaqaysan kara qodobka ugu dambeeyo 2 daqiiqo ka badan mayso raalli ahaada waxna waa idiin soo reebaya insha allahu tacaala waa qodobka oranayo islaamka iyo dimuqraadiyadda islaamka iyo dimuqraadiyaddu isma soo galaan dhinaca rasmiga markaan ka eegno maxaa yeelay waa la tilmaamay dimuqraadiyaddu xukunka shacabka iska leh shacabka ayaa xukunka iska leh laakiin islaamku muxuu oranayaa xukunka iyo maamulka iyo go-aanka shareecada iska leh laakiin shacabku waa sultadii iyo awoodii iyo baawarkii fulin lah halkaas horta ku kala duwan yihiin
waxay kaloo ku kala duwan yihiin oo muhiima iyadana inaan fahanno in dimuqraadiyaddu xorriyaad wahmiya u yeeraysaa oo qofku inuu wax walba xor u yahay xaqa tacbiir xor u yahay wuxuu doono samayn karo haddana iyadoo xorriyaddaasi aynan sax ahayn oo laga daba tegayo iyadoo dadku waxay xor u ahaayeen ay doorteen haddana lagu qabsanayo islaamku wuxuu leeyahay xornimadu way xadidan tahay xornimo mutlaqa ma jirto shuurada iyo ku dheeraan mayo waxaa sheegay sheekhana sheekh axmed nuur ayaa tilmaamay farqiga u dhaxeeya shuurada iyo dimuqraadiyadda furuuq badan oo waa maxay shuuradu arrimaha mustajadka ah ee soo cusboonaado oo qur-aan iyo sunno aan ku soo aroorin bay ka hadashaa laakiin dimuqraadiyaddu waxay ka hadashaa waxa la yiraahdo wax kasto ayay ka hadashaa qur-aan sariixa meeluu ku soo arooray ayay leeyihiin aayaddani ma bannaano oo bannaanka ha la dhigo dadkuna ha ka doodaan ha u codeeyaan codayntaas weeye ugu dambayn islaamiyiintu ma ogol yihiin in lala mushaarakeeyo waa cabsi jirta wa hadday mar kursiga ku habsadaan amay keligood marooqsadaan waa cabsi jirta wa laakiin waxaa inooga filan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam magaaladii madiine markuu yimid yaa kula noola iska daa muslim kale yahuud baa kula noola muxuu sameeyey wathiiqat almadiina constitutionkii ugu caansanaa ee lagu kala badbaaday ilaa markii dambe yahuuddu ay jebisay nebigu uusan ka bixin idan haddaan diimaha kale wax u ogolnay oo muwaatiniin ay noqon karaan ma muslimiin kale iyo soomaali kale lagu ciriirin karaa meesha war arrinkaa gar maaha islaamku sidaa ma qabo waxaa iyadana muhiima inaan tilmaamno mujtamaca muslimka waxaa ku jiray munaafiq waxaa ku jiray faajir waxaa ku jiray maxaa mujtamacii saxaabadan ka hadlaya saxaabo ma ahayn dabcan qaar badan oo ka mid a ila munaafiqiintu saxaabada kuma jirin laakiin shaati saxaabay huwanaayeen nabigana calayhi salaatu wasalaam waa isku wada waday muwaatiniin bayna u wada ahaayeen idan islaamiyiintu waa isku wadayaan dadku haddii xilka iyo jaaniska la siiyo laakiin jaanis baan la siinaynin taa waa hubaal hada wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed tartiibsada ka tusaale qaata turkiga waa fahansaneydeen sanado ka hor gabadh islaamka ah inay xijaab looga ogolayn inay soo fariisato baarlamaanka maantana heerkay gaadheen waa ogtihiin marka tartiibsada waxaa jira eray oo dhammaantiina isticmaasheen oo ah ereyga islaamiyiinta ereygaas wuxuu u baahan yahay waxaan isleeyahay sharaxaad dheer marka culimadu waxaan ka rabnaa inay hoos sharaxaan sababta ole waxay tahay islaamiyiinta marka la yiraahdo macnaheedu ma waxay tahay dadaan islaam ahayn miyaa soomaaliya ku nool al-shabaab waddanka wax ku leeyahay qaar ka mid waddanka wax ku leeyahay ku dhasheen maxaa dowladdii soomaaliyana ay hadda dee dowladda soomaaliya oo official ay jirto maxaa inay ka hortaagan inaad u dhimataanoo bal lixdii nanba ha layni dilay intaad meeshii tagtaan waaba laga ka faa'iidaysanayaa u malayn maayo lixda dambe inay dilayaane ma cabsanaysaan bal halkaa caawa noo caddeeya maxayna ka hortaagan inaad dhexdhexaysaan mediation samaysaan waxay caddeeyeen dalka dunida islaamka in la qabsaday 100 sano ka hor ilaa markaana la rabay in la soo celiyo xukunkii islaamka ahaa doorashadiina waa la diiday ninkii qori qaatana waa la diiday waa la dilay meesha culimada la weydiinayo ay ka raadinayaan xukunka horta culimada bal ha la weydiiyo ama iyagu ha ka raadiyeen ama ummadda ha ka rabto taasi waa qodob qorshe idiin degan oo ummadda qaabkan lagaga saaro oo ama adduunka isbeddelka ka socda ku xidhan ama Soomaaliya ku xidhan oo heshiisiina wax kale idin weydiin mayno wax qorshe hadar ma haystaan oo kale waraadada naftirkoodu laba jeer bay fashilmeen midna waxa uu 1991kii midna waa 2006kii mid waxa itixaadkii midna waa Islamic Court of Union marka labada tusaale maxaa ka barateen oo aad dib ugu sixi kartaan maxaad ka barateen dib maanta ugu sixi kartaan Soomaaliya marka ay waqti mid labaad waxa wasaash labaad waxa weeye wadaadada waxaan ilaahay jirteen waan guureynaa oo macnaha wadanka dadka lagu noqdo oo dadka ilmaha la cesho marka hadda maxaa xala oo macnaha ilmaha ana arintaasna inaad address garaysiin awalan su'aashii ugu horeysay waxay ahayd amina maslaxad tahay wadaadadu inaanay ku degdegin xukunka qabashadiisa talada yani marka la fiiriyo meelaha hadda wax ka dhaceen sida Masar iyo waa ra'yi wanaagsan weeye oo iman kara oo xukunku asalan ahaanba yani ummaddan isbedesho saan oo horey u soo marinayba waa inay qanaaca dadka Soomaaliyeed ka timaado iyo dadka muslimiinta ah rabitaan ah wax laguma khasbi karo
islaamka inuu xukumaan hadda waa loo diidan yahay wadarta waa la haystaa waddamadii muslimka waa laga adkaaday qola haddii laga adkaadana adduunkuba sida uu yahay weeyo dee looma ogola inay dhaqdhaqaaqaan ama hantidooda ama dhulkooda ama waxooda marka dadka muslimiinta iyo dalalkooda siday u dhacday dowladdii weyneyd oo maali jirtay ama isu ururin jirtay oo turkiya ahayd 1924 loo riday wixii ka dambeeyey caalamalislaami waa la googooyey waana la xukumaa marka inuu taa ka baxo waxay u baahan tahay dadka muslimiinta dhexdooda oo soomaalidu ka mid tahay inay ka timaado marka waa ila tahay xikmadda inay marmar oran karto inaan lagu degdegin ee la sugo in shacabka xaggiisa laga soo dhiso oo la wacyigeliyo waxna aan lagu boodin madaxtinimada laakiin haddii jaaniskeeda yimaado dadkay ula mid yihiin sida ragguba ay sheegeen waxaa kaleeto waxyaalaha muhiimka ah ka mid ahaa gabadhii walaashaan ahayd oo tiri waa sax weeye degdegina waa fiican tahay laakiin turkiya masalan hadda xijaabka iyo dhibaatooyinka ay soo martay sheekh cabdiraxmaan warkiisa ku jirtay innagu waa soo goynay taas waa soo marnay dacwada soomaaliyana si fiican bay uga hana qaaday dalka soomaaliya ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaan isla isbedelkaas wuxuu ku keenay dadaalkii culimo ay u gashay soomaaliya waayo caalam alislaami oo dhan يعني هل قرني كهر أيا مرة اللي يسكت إلا دقرقه إنما كمد بانهين قبلها الصومالية والحجابا هذا المال والباء الحمد لله مريا أفرت سنة كهر مصدق سنة كهر سيدا وجرين بل يعني وحن حصوصته الشيخ حسن حسين والشيخ كمدا علماء الصومالية حجر وحن كبا كتجي وقوي الصومالية وحن راجيني قبر guursado oo inan ah oo tukata salaadana taqaan على الأقل مدح حتى وحساريهن ودن كبن انت كر وقوي كمري الى كونفر ان تجيب الجبر انما او شروط اس ان روا ان واي ugu adkaatay marka wadciga sidaas ahaa iyo iskuuladii gabdhaha loo diidi jiray inay xijaab ku yimaadaan meesha Turkiga hadda la diiday waqti dhow waa soo marnay alxamdulillah waana laga gudbay ummadda Soomaaliyeed ka weynaatay maanta oo wacyiga islaamku si fiican ugu intishaaray laakiin heerkii xukunka ayaan wali la gaarin waxa kale oo walaadadan hambaynaya inta kale arrinkan ku saabsan islaamiyiinta walaalka weydiiyay waa sax weeye annagu in loo kala saarsaro magacyadan hadda waxa la isaga isticmaalayay saan rajeynaya wadaadadu ma aha inay aaminsan yihiin dadka muslimiinta ay kala baxsan yihiin qaarna aan islaam ahayn qaarna muslimiin yihiin ama Soomaalidu qaar muslimiin yihiin qaarna غير muslimiin yihiin looma isticmaalayo waa islamistis وهذا يعني تعبير كصحفي ah waa la isaga isticmaalay baan u malanaya in laga dowrsadana way fiicanta waa wax afka loo galiyay sida badan hada dadka muslimiinta ma kala baxsana dadku dhan insha Allah ta'ala dad muslimiin way aan ku saabsan maxaad xal haysan oo dagaal iyo haddaan la ogolayn dimuqraadiyo midna waxa weeye san sheegay dadka muslimiinta inay islaamka uu u yahay xukun wax kalena aanay baahi u qabin waa arrin sugan weeye mana aha arrin cusub yani dadka qaarkiis waxay maanta waxa la leeyahay lagu celcelinayaa inagu waxaanu reaction ku samaynaynaa waxa saxaafadda iyo warbaahinta reer galbeedka ama qeyrka lagu celcelinayo ah islaam baa meesha xukumayo war islaam inuu ku cusub yahay meesha inuu xukumo kun sano xukumayay ya labada boqolka sano oo aad idinku dhulka isticmaalka ku qabsateen miyuu noqday wax cusub oo ummadda bannaanka uga imanaya ya maaha kun iyo 300 sano ayay muslimiintu islaamka ku dhaqmeeyeen waxa cusub waa waxa kan idinku aad bannaanka ka keenteen kaas ajnabiga ah waa u baahan in la isweydiiyo ama islaamka in la isweydiiyo question ka ayaa qalada aslan in halka laga bilaabay qalad tahay dadka muslimiinta inay ku dadmaan maaha waana waxa wadaadadu ay ka hadlayaan inay bedelaan oo dadka maskaxdooda ay ka qufaan waxaan lagu shubay inay ka daadiyaan oo asalkeedii u celiyaan in lagu celiyo maanta dhan dimuqraadiya ma gashiin mise ma ogolo iyadoo wali riwaayad ah oo ognahay inay riwaayad tahay riwaayad inay tahay
maaha in laynagu celceliyo dadka waa dad muslimiina inay islaamka ku dhaqmaanna weliga way ku dhaqmi jireen soomaaliya dowlad islamic state xal ma u tahay su-aalihii hadday noo soo qoray waa ka mid ah walaalkan saadiq soomaaliya waa dal muslima waa state muslima ilaa iyo aamunuuntii bay ahayd muslimiin ilaa waaga islaamiyeen ma hadda state islaamiya noqonaysaa ma hadda laga dhigayaa hadday tahay dal muslima oo state muslima tahay yaa ka qaadi karaa state muslima inay tahay cidina kama qaadi karto marka su-aalahaas waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha naga qaldan bay aniga ila tahay wacyigeenna in lagu saxo ay tahay dadka muslimiinta ah waxa weeye xalku xal sixri samada kama soo degayo inay iyagu aaminaan islaamkooda iyo diintooda iyo shakhsiyadooda inaanay kala go-in iyo xukunkooda iyo nidaamkoodu ma kala maqna waxaad u baahan tahay wax caqliga yani xaqiiqatan ka weyn markaad u baahan tahay inaad gabar guursato ama gabadhu ay nin guursato inay tiraahdo kitaabka alla ii baaro ya markaad tiraahdo ummadaydii baan rabaa inaan u taliyana aad tiraahdo may meel kale alla aado how come say ku dhacaysa marka aad tiraahdo caruurtaydii dhaxalka ha loo qaybiyo aad tiraahdo kitaabka qur-aanka ii keena markaad rabto inaad tiraahdo waa tukanaya kitaabka qur-aanka ii keena waayahay markaad rabto in la maamulo ummadana may kitaabka isaga xagga gey markaa wax saxa ma waxaa la rabana ishkaaliyada halkaas unbay ka dhacaysaa dadka muslimiinta waxa wadaadadu way ka shaqeynayaan in loo saxo taas kadib hadday taasu saxanto oo maskaxdeena waxa ku ufmay qalaadka laga saaro horta dadka muslimiinta ay ka dhaqmayaan islaamkoodana ka dabaqayaan waxyaalaha aan bi'iyey wadaadadan u deynayaa qabaliyada wadaadada soomaaliyeed waa soomaali weeye laakiin ma dhahino yani culimmadu منهاجك يكون صوت أما مرة دينيتي أما شغلة أي وضان عنوان وحاوة قبيالة تاسم به كرنه وجنا يكون حد قد بكرنه لكن أشخاص توضى فردي أهان قبيالة دي مجلي كرتها هاو مجلي كرتها سيدتك كلا يقولي سيقولي كرتها وهاتكم معها ملايك معها سمدنا كمس ودقين صومالي ولمديهي وحي صومالي دا عور كدعا أما هرقب كدعا سمنه كدعا إسا دي فيروسكم ماشي صوقالو بالله التوفيق محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين meelahan ku waafaqsanahay kuma noqonayo laakiin mawduuca ku saabsan xukunka aniga waxaan qabaa wadaadada siday xukunka u raadin jireen weli inay u raadiyaan waxaan aaminsanahay khisadii muusa iyo haaruun oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inay galaan qudus hadday galaanna ilaahay wuxuu yidhi waa idin kaalmeynaya waa qaalib noqonaysaan wadaadada waa inay galaan xukunka wadaadada shacabkay ka mid yihiin ama individual mid ha u galeen ama ururo ha u galeen ama nidaam xisbiyeed ha u galeen inay isnidaamiyaan oo aan laga xigsan ani saasaan aaminsanahay midda ku saabsan doorashadan waxaan u arkaa xeeladaysi inay tahay marka su-aasha la weydiiye waxay ahayd xeeladaysi waa shaqayn weysay aan xaadi ku wadno xabadna waa shaqayn weysay maxaa xal ah saamaan su-aasha la weydiiyey wax u dhexeeya ma jiraan marka aan raadino marka ani waxaan arkaa xamaas hala daraaseeyo ani waa fikirkayga xamaas markii doorashadii iyagoo ku guulaystay la gacan la dhinac maray nidaam ayay sameeyeen nidaamkaas wuxuu u baahan yahay daraaso la rabo shacabka oo dhan islaamiyiinta shacabkii aan kala soocin sheekoo ku waafaqsanay anagoo wada muslimiin aan wada nahay wax kala soocitaan ma jiro islaamiyiin markii la dhahayo waxaa loola jeeday oo keliya ururada magac islaam ugu shaqeeya uguna khidmeeya islaamka iyo shacabka saasaa loola jeeda laakiin ma ahayn in dadka la kala soocay laakiin waxaan ula jeedaa in daraaso la sameeyo xamaas dagaalkii hadda ghaza ah way guulaysatay intasarad maaragtay waana waa wax caalamka xitaa cadowgeeda xitaa ka markhaati kacay marka xamaas weli way jirtaa iyadoo doorasho ahaan ay dhacday awood siyaasadeedna way leedahay awood quwad militarina way leedahay marka daraasadaasi iyo daraaso fara badan aan sameynna maxaa naga halaabay sheekh axmed nuur inuu ahaa u maleynaa khibrad yarin way jirtaa waa run laakiin maxaan ka baranay duruustii dagaalkii maaragtay dagaaladii xarakaadka qaarkooda ay galeen maxaakiimta islaamiga ah taxadiyaadka jira intaasoo dhan laakiin marnaba ma qabo
in xarakaadka ay maaragtay ay dhahaan aan u yarakaadino haddaad saaka u fikirto waxaad booska u banaysay dadka khatar ku ah jiritaanka islaamka oo dhan marka in boos la siiyo ama waqti la siiyo taa muu malaynaya inay sawaab tahay arrinta ku saabsan haweenka oo sheekha uu hambeeye ah haweenka maxaa door loo siin waaye haweenku wax ma xalin karaan su-aasha saasay ahayd nacam haweenku wax waa xalin karaan nabiga calayhi salaam arrin oo cuslaatay xal in loo raadiyo markii taariikhda islaamka la akhriyo nabiga calayhi salaam alxudaybiya oo nabiga calayhi salaam loo diiday isagii asxaabtiisa inay galaan maka asxaabtii diideen rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu amray in meesha lagu xalaaloobo oo markii uu arkay in cabsi rasuulka calayhi salaam uu ka cabsanaya cara ilaahay inay ku imaan karto xal wuxuu ka raadiyay haweenkii markii gabdhaha raba inaan ku bishaareeyo haweenka cuquusha ay leeyihin waxay la mid tahay cuquusha ragga ay leeyihiin xalna uma salama keentay riwaayadaha waxay dhahayaan rasuulka calayhi salaam uma salama waxay sabab u noqotay asxaabta inay badbaado marka asxaabtaad badbaadiseen marka haweenka xal way hayaan wayna hayn doonaan mujtamacana qeybi ka yihiin marka qeyb aan la inkiri karin oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay wayaan in xal laga raadiyo su-aasha ah oo sheekh uu hambeeyey waxaa ka mid ah mala guurayaa iyo waxaan inta kalena culummada u deenaya su-aasha al-shabaab iyo dowladda ma la xiriirin karaa mala guurayaa anigu waxaan aaminsanahay waxgaradka aqoon-yahanka dadka khibradaha leh dadka lacagta haysta qof kastoo dhismaha soomaaliya ka qayb qaadan kara inuu u dhexeeyo soomaaliya iyo maraykanka dadka qaarkood waa dual citizens laba jinsiyadood inaad haysataa suurtagal ah dadka qaarkoodna sharci nooca doonta hayso waxaad u dhexeyn kartaa soomaaliya iyo halkan marka dhismaha soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay waajib diini ah dadka wadamadooda dhistay oo ay ka mid tahay dowladda israa'iil xitaa haddaan qayb inay leedahay aan u sugno inkastoo inta badan dhul falastiin uu yahay xitaa waxaa laga dhisay dibadaha iyo halkan iyo dowlado fara badan ana waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliya ee dibadda jooga inay dhisi karaan wadankooda dhinac kastana ka dhisi karaan dhinaca siyaasadda ka kaalmeyn karaan dhaqaalaha ka kaalmeyn karaan dhinaca bulshada tacliim iyo wixii la mid ah arrinta ah ma la heshiisiin karaa dowladdii al-shabaab hal su-aala hortaagantaas nacam waa la heshiisiin karaa arrintaas waxaa sameeyey ibn cabaas anigu waxaan ka qaybgalay shirkii 160 culamo isugu timid 2013 last year muqdisho oo hadafku wuxuu ahaa maaragtay arrimahan ku cusboonaaday diinta ama phenomena dadka ay u bixiyaan luqadda englishka oo ku soo kordhay oo ah in magacii islaamka dad lagu laayo in magacii islaamka dowlad jirta oo rabta inay horumar samayso lagu hor istaago sidee loo sixi karaa culummada ay u sixi karaan shirkaasi markuu dhacayay waxaa la soo qaaday arrintan ah al-shabaab iyo dowladda ma heshiisiin karnaa waxyaalaha soo baxay marka laba su-aala aan kaga jawaabayaa laba su-aal waxay noqonaysaa dowladda xor ma tahay se heshiiska al-shabaab ay u gasho mala fahmaysaa iyo al-shabaab lafteeda xor ma tahay say dowladda soomaaliya ay la heshiiso intaas in la bayaamiyo loo baahan yahay waa caddahay okay tan ku saabsan marka ururinta walaalkii waa weydiiyey macalin muuse raggiina diyaar ma tihiin haddii ay suurtagal noqon karto ani waxaan u malaynayaa anoo culummadan ku kalsoonahay annaga haddii fursad timaado sheekh shariif aan la fariisanay sheekh cabdiraxmaan waa nagula jiray annagoo 12 culamo ah waxaan sheegnay inaan diyaar u nahay gudaha inaan tagno oo shabaab iyo sheekh shariif aan heshiisiino ilaa hadda waa sugaynaa jawaabti waana ka baxay wasalaamu calaykum midda ma la heshiisiiyo oo shabaabka iyo dowladda waxaan malaynayaa inaad qofka su-aasha weydina aad badan waxyaalo badan ka maqan dowladda shariif markii jabuuti lagu soo doortay shariif maxaakiimtuu ka mid ahaa culimmada waxay ka tageen dibadaha oo dhan ay ka tageen waxaa laga yimid hargeysa waxaa laga yimid banaanka waxaa laga yimid gudaha laga tegay waa laisugu tegay xamara laisugu tegay sharci culimmada qabteen sheekh umala ku jira sharci afriqiya laga tegay waxaa la yidhi maanta waa fursad aan heshiisiino waxay la fariisteen dowladdii waxay dhaheen ciidamadan etoobiya waxay ku baxeen heshiis siyaasadeed ugu baxeen ilaahay fadligan 30 kun oo ciidan ahay iyo macalqaabkoodii bay baxeen culimmada marka
oo isu yimideen waxay yidhahdeen ciidamadan kale sida nooga baxaan aan idin heshiisiino heshiis markaa dowladda waa ogolaatay sharafka waa ogolaaday laakiin shabaabkii u tageen shabaab iyo ragga u tagay isaga laftiisa shabaab aan wareysanay waliga u tageen inay la hadlaan shabaabkii masaajiday fadhiisiyeen wiil yar ay u keeneen wiilashiyaa la yidhi wacdiga culimmadan bayax u sheega wiil yaroo lagu sii dayay waa hadlaa maanta hore waa obrinaya waa dhabliyey mid kale haddana istaagi mid kale haddana istaagi waadii sidanka u sugaayeen bal inay wax uun intay wada fariistaan madaxdooda iyo dadkooda wada fariistaan ay wax isla gaaraan waxaa la yidhi antum shacbakum waa dhegaysateen wacdiga iyo khudbooyinkii adinkaa jirta waxa samaynaysaan jirta waa ka soo noqdeen waadada markaa shacabkaa diiday ciidamadii etoobiya way baxeen markii ciidamada ka badanaa yimid yani heshiiskiina aan heshiin anigii adinka haddaan wada heshiino oo nabad ay dhacdo markaa way ka baxayaan waxaan ciidamadan way naga bixi karaan laakiin aniga daartan ay dishid say ku heshaan saa ka ilaalin karaa saa ka ilaalinaya marka runtii waa la aadi karaa wadahana waddanka waa tegey sanadkii hore waa tegey kii ka horeyna waa tegey insha allahu taala waana aadayna waqtiga diyaara u nahay laakiin marka su-aashadeeda na raacaysa ugu odayna insha allahu taala jazaak allah khayr arrinta kale waxa waaye maxaa xal ah xabadda haddii la waayey xabadda haddii ay socon weysay qorigan qaaday xabaddii haddana siyaasaddiina ay socon weysay islaamkii in dimuqraadiyo iyo lagu raadiyo dariiq silmi oo doorasho laga qayb galo halkaas loo soo maray islaamkii labada hadday suurtageli weysay see la yeelayaa maxaa xal ah xal waxay u taallaa dadka ahlu xalli walcaqdi u taallaa dad waxaa jira ahlu xalli walcaqdi la yidhaha muslimiinta intooda culummada waxgaradka intaasay u taallaa inay ka fariistaan oo yidhaha maxaa xal ah qaar yani muddo ha la sugo dadkii ha la tarbiyeeyo bal ha la dhiso dacwo keliya ha la wado ama xal kaleento kolba xal sidii markaa ah waxaa laga rabaa dadka ahlulxalli walcaqdi waana waxa maqan ilaa hadda waa waxa maqan hadda dadka culummada in loo daaya arrinta iyagu ha xalliyaan kolba meesha ay isleeyihiin waxa la qaban karo ayaa munaasab ah markaasaa iyaga keenayo insha allah waana la helaya xal inuu ixbaad kugu dhacana ma aha islaamku wax badanaan anaga waxaan soo joogna waddanka wada hantibadaadoo la xijaabnayn aniga waddanka xabad kuma ridin ma la dagaalamin ayagoo la xiraayo oo wax kastana ugu samaynayo haddana dacwadii aan wadnay waa lagu xabisa xabiskii marka lagu xabisa dacwada xabsigii laga wadaa waxaa xabsiga kasoo baxayo nin agaasimo ahoo la xiray nin injineer ah nin dowliye ah ayaa dacwada xabsiga wadaadkii xabsiga ku jira dacwadii gaarsiinaya marka dadkii nin waa isbedeleen waa kasoo gudbinay marxaladii annagoo waddankii aan waxba ka dhicin ayaan kasoo gudbinay iyadoo si tartiib ah waxba dhicin dhiig ku daadan ayaa dadkii xijaabkii qaateen diintii qaalib noqotay alxamdulillah wax fahmeen maraaxisha hadda la joogana aniga ma qabo waxa ugu khatarsan waa fawdada hadda yani waxbaa iska socdo mawjada iska socdo meel laga xukumo iyo dad xukumo iyo lama yaqaan wixii waa iska socdaa fawda fawday ku dhammaanaysa marka dadka ahlu cilmiga ah oo culimada haddii loo celiyo iyagaa xalka keenayo iyagaa kolba waxa loo baahan yahay waxa keliya waxaa dadka muslimiinta ku leeyahay halba istaaga dhawaanaga shareecadan rabnaa ordana dhaafa wixii kaloo shareecadan doonaynin taa goormaa la gaara ilahi la garan subxana watacaala islaamka dabaqaadiisa dadka qaarkood islaamka dib ha loo dhigo waayo hadda maxaa la keenaa islaam oo aan qariib ahayn islaamka hadduu qariib noqday soomaaliya ku noqday dib ha loo dhigo ha la sugo xoogaa maxaa la keenaa hantiwadaagaa la keena hantiwadaad maa naqaan anagu weligii yaa maqla hantiwadaad 20 sano lagu qajijicinayo oo lu hantiwadaad hulooyinka xisbiga hala baro gacanka hala baro hantiwadaad haddii raashi laga keenay halkaas waxaa naqaana maaha hadda waayahay islaamka meesha ka dhaqaaji ha la sugo dadka baro hala baro maxaa keenaysaa adiga أي مبدأ أو سومالية تقان أو ديار لويه أو أكسبت كريمة بالكين واقع الإسلام هين سوماليا مسلم وإسلام تسوه هيستين
islaamku waa in lagu dhaqa waayo maanta laga bilaabo waxyaala awlawiyada way jiraan sharcan dabcan waxyaala awlawiyada way jiraan la fiiriyo u baahaya awood ma leenahay maxaan sameynaa hadda sidee waxu sameynaa see maaragtay awlawiyaadka shareecada islaamka amrayso marka awlawiyaadka dadka culimada ka hadlayo laakiin islaamka waa in la dhaqan geliyo waay soomaalida boqolkiiba boqol muslim islaamkana way rabaan kulligood constitution hadda waa ku qoran yahay إن شاء الله تعالى الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد horta si kooban qabaliyada xalkeedu waa in iska daayo waa in laga tago waxaa runtii cad oo aan u baahnayn markhaati iyo in la isu sheego khatarta iyo dhibaatooyinka ay qabaliyadu leedahay mujtamacana soomaaliyeedna si gaar ah uma baahnin in aan isaga sheekayno maanta wixii ay noo geysatay baa wax iska cad ah oo waadix sida qoraxda u cad waana burburisay dowlad la-aan bayna dhigtay dadkeenni baa ku baaba'ay dalkeenni baa gacanta ka baxay ilaa haddana ku sii socdo waxaan aada iyo aada runtii ugu bogay oon aada u jeclaystay muasasada la yidhahdo muasasatu risaala oo u k muctamar ay qabteen oo ay culimo badan oo isugu tageen waaweyn oo soomaaliyeed uu ka mid yahay sheekh doctor bashiir axmed salaad gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh maxamed umar inuu tagay u malaynayaa shirka isaga ah runtii waxaa loo qabtay qaab ka duwan qaabkii shirarkii hore loo qaban jiray shirka waxaa loogu magacdaray la dagaalanka qabyaaladda dadka shirka soo gelayo oo hoolka muctamarka lagu qabanayo soo gelayo foom baa laga saxiixayay magaciisa telefoonkiisa adreeskiisa emailkiisa iyo ballanqaad hoos ballan makaa tahay ilaahay hortii in aad ka qayb qaadatid xamladan la dagaalanka qabyaaladda ah haa wuu qorayaa wuu saxiixayaa waxaa hadda qabanqaabsan sidii walaaluhu ay noo sheegeen dadkii iyaga ahaa in dib loo shiriyo oo laga tashaday inta la fadhiisto la isu yimaado sidii cudurkan dilaaga ah ee fataagga ah loola dagaalami lahaa oo ummadda looga daaweyn lahaa marka waxaa way walaalayaal xalka oo kooban waa in qabyaaladda aan ogaano dhibaatooyinka ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa nooga digay ummaddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray oo uu yimid waxay ahayd ummad ay qabyaalad burburisay oo baaba'day oo waxa weeyaan midka awoodda leh ka daciifka uu cunayo la isku duulayo la isdhacayo dadka bini aadamka ah la adoonsanaya qof xor ahoo dhashay aabbihi hooyo dhaleen baa lala tegaya addoon baa laga dhiganaya eber nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waad garanaysaan ummaddii ayaday mujtamacii ayada hayd suu u bedelay qabyaaladii iyo isnacaybkii iyo qoloqoladii iyo ree hebel baa nahay iyo kufaankeedii baa lagala dagaalamay heer nabigu calayhi salaatu wasalaam uu gaarsiiyey inuu yidhaahdo war waa wax urayo dacuuha fa inaha muntina ka taga waxaa nabigu ugu yeeray dacwa aljaahiliya jaahiliyadii islaamka ka hor aan diinta lahayn yacni dhaqankoodii inay tahay meesha shareecadu ay gaarsiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam heer wuxuu gaaray waxaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu yaqaanaa akhlaaqdiisi akhlaaq wanaag dhaqan wanaag hadal wanaag maa kaana faaxishan walaa mutafaxishan balo fiirso alfaada lafdiga lafdiga ka fiican ka wanaagsan qabaliya markay timid xumaanta bahasha ay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam heer wuxuu gaarsiiyey uu yidhaahdo qofkii dadka ugu yeera waxyaabaha nooca iyo dacwa aljaahiliya si toos ah u yidhaahdo ha ka qarinina waxaad ku dhahdaan aabbaha xumaanta iyo qubxigeeda wuxuu nabigu ku matelay calayhi salaatu wasalaam heer uu gaaray inuu ku matelo
oo uu yidhaahdo wuxuu la mid yahay dadka qabyaaladda iyo waxyaabaha noocaasa ku dhaqmaya bahalkan xaarwalwaalka la yidhaahdo. xaarwalwaal inay ilaahay agtiisa ka liidanayaan oo ka hooseeyaan. xaarwalwaalka waxaa dhaqan waa isla naqaanaa, waxa weeye saxarada ayuu sanka ku dilindalyaa oo ku riixaa. walaahi ku dhaaro fursad dadka tijaabiya anugu ma tijaabanina waxay yidhaahdeen haddii baraafuun iyo wax udgaya lacag maray wuu dhintaa. wax udgaaba laga raacaaba. dadka qabaliyiinta oo qabyaalada ku shaqaysta haddaad aragtaanna dhaqankooda waa noocaas. wax wanaagsan, midnimo, sharaf, diin lama tusi karaba, maba la tusi karo. way usoo uraysaa sidii deershaankii baraafuunka ku dhimanayay. marka anu waxaan dhihi lahaa runtii oo soo jeedinayaa ummadeenna qurbaha nimid waxa weeye bahashaan dhibaatadeedii si gaara u aragnay in la tashado ka aqoon-yahanka ah, culimada, ardayda jaamacadaha, gabdhaha, nooc walba bulshadu ay tahay ha la isu yimaado. soo nin walba qabiil kama dhalan. nin walba ballan soo qaad qabiilkaaga inaadan wax xumaata ah ugu hiilinayn. dadka muslimiinta oo walaaluhu ay kuu sinaanayaan, khayr iyo midnimo aad ka shaqaynaysid. shirar iyo arrimo arrinta iyada ah looga hadlayana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay soo socdaan oo culimmadu ay soo wadaan. ilahna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu cudurkaa naga saaro. wabillahi towfiiq. marka hore waxaan oran lahaa dadweynaha dhegaysanaya hadalka culimada macdiratan raalli ahaada, wax fiican baad dhegaysanaysaan, laakiin nin baan soo xusuustay hadal uu yidhi oo waxaan fili fagaarayaashii hore inuu kani ka waqti dheer yahay. marka nin baa wuxuu yidhi wadaadna mikrafoon looma dhiibo, dumarkana telefoon looma dhiibo. marka raalli ahaada wadaaddaa telefoonka u dhiibteen mikrafoonka. kaftan kale waxaan ku bilaabi lahaa sabiiq gabadha waxay weydiisay maxaa gabar loo keeni waayo oo maaragtay miya la waayey. marka waxaan u malayn walaal sabiiq warfaa wuxuu is yidhi gabadhii maanta halkan la soo fariisiiyo sarajoogay ka dhacaysa. intaa kadib keliya waxaan kusii dari lahaa culimada ka hadasho waxay ka hadlan oo dhan waan ka gaabsan, waanan ku waafaqsanaya xaqiiqatan inta badan. qof baa wuxuu weydiiyey ma la guurayaa, taasaan wax yar oo culimadu dhihi jireen sidaan marka u kala farqin lahaa. culimada waagii hore waxaa la oran jiray hala baxo oo hala guuro. culimadu xitaa dadka ha hogaamiyaan oo ha baxaan. iyo sheekh maxamed oo kale iyo sheekh xadir iskar allah siiya maraas xustaan muxaadaro noocaas oo kale uu ka dhigay. hadda culimadu waxay leeyihiin qofka ugu dambeeya oo baxa waa inay culimada noqdaan. sidaa waxaan u leeyahay xaqiiqatan maanta sheekh aadan baa ii sheegayey oon markhaati u gashanayaa. sheekh shariif cabdinuur ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo. sheekh shariif maaha, waa sheekh shariif cabdinuur, waa caalimkii soomaaliyeed oo magaalada wadanka sacuudiga ku xanuunsan. ilaahay ha caafiyo, amiin u dhaha insha allahu tacaala. caafimaad alla sheekhaa siiyo. dadkan oo dhan oo sheekhoodiia iyo sheekh umal baa fariin waxay soo farayaan hadda dadka oo ay ka hadlayaan culimada. waagii hore waxaan oran jirnay culimadu ha soo tagaan oo wadamada reer galbeedka ha ka yimaadaan, laakiin hadda waxaan aaminsannahay in culimo kale loo diro oo wadamadan dad culimaa loo soo diro. arrintaasna waxaad dareemi kartaan ood markhaati ka tihiin dowrka culimada ay ka hayaan halkan. inta maanta keliya laysugu keenay halkan waxay u yimaadeen waa culimada. siyaasiyiin umayna imanin, dad kale umayna, culimada dadku u yimaadaan. waxa bacdallaahi badbaadiyey jaamiyaadkeena dibaddana waa culimada. marka waan oran lahaa sida sheekh xasan jaamici iyo sheekh cabdiraxmaan oo aada wadanka u taga waan ku raacsanahay in wadankii la tago oo dadku wadankooda ku xirmaan, ay maalgeliyaan, ay wax ka dhisaan. laakiin culimadu inay dadkooda ka dhex baxaan ma aha, inay noqdaan dadka ugu dambeeya oo inta u dambaysa badbaadiya bacdallaahina waa aaminsanahay insha allahu tacaala. wajazaaka allah khayr, baaraka allahu fiik. waxaa kaloo oon rabaa inaan muujiyo kelimad walaal uu yidhi firqooyinka sidaasoo kale erey ahaa, yacni in aan saxno firqada iyo jamaacada farqigaa u dhexeeya. rasuulku wuxuu sala allahu alay wasalam markuu umadihii hore ka hadlay yahuud waxa u kala baxday
71 فرقة نصارى 72 أمة 73 كلهم يدخلون النار إلا الواحدة كوحها الديني iyagoo laga yaabo in magacyo kale loo kala yaqaano sami ma sheeta waxaad tiraahdaa salafiyiin waxaad tiraahdaa ikhwaan ama itixaad dheh ama islaax dheh ama fura waxaa rabta ku magacaabo culimmadu muslimiinta waxay leeyihiin kooxaha islaamiyiinta iyo dadka jamaacaadka firqa ma dhahayno jamaacaadka islaamku kulligood waxay soo gelayaan insha allahu tacaala alfirqa annaajiya فرقة بدباديسة أي وذيهين إن شاء الله تعالى بدباديسة تصدق تسبان كورا لها كلمة إن شاء الله تعالى وحن كسر ختم لها سؤال هذا الله لكن وحن يكفي علماء وشباب يوم الله يشسين كرا الدولة وفي عند الدور كان لقاته وضع كشقيا لكن تاريخ ذي هراء إذا من الله مع شيخ عبد الرحمن بصفي عرفت وشيكي شيخ عمر با واحد لنا عرفت كهذا محاضرات كقبته كلمات كسمية تذكي تليفون كجري الشيخ عمر العلماء شيخ علي ورسماء العلماء وين الدعوة الصومالية كملها هذا الجرام يسند بدن با كملها وحو شيخ عمر شيء لحسا عضاد بيوحو يريدون ناخذ بينيه مركز مركز دملي توحيد كان كخلدنا هرتوني التوحيد على يصح marka halkaas ay hawshu maraysaa ummaduna waxay baaba'aan ikhwaani markii dadka da'da yar ay ka xiriir furtaan culimadooda markay kala xiriir furtaan waa marka loo baqaayo inxiraafka dictoorku hore Allah siiyo Cabdiweli mar hore ka sheekeeyay oo labada gruub ah oo ah gruubkan cilmaaniyiinta ah iyo gruubkan munxarifiinta inxiraafku iyana ku dhacay oo islaamka magaciisa maanta ku qaraabanaya waxna ku laynaya dhiigana wadamo badan oo muslimiinta maanta ku daadinaya dhibaatadaasna waxay noqdeen labadooduba dadkii ahlu xal wal aqdiga ahaa oo ahaa culimada iyo ru'aasada iyo dadka ay taacadoodii la rabay in laga dambeeyo ayay labaduba ka xiriir furteen waxaan oran lahaa aan ilaahay u barino subxaanahu watacaala dalkeena soomaaliya ilaahay subxaanahu watacaala nabad inuu noogu soo dabaalo dhibaatadana ilaahay subxaanahu watacaala inooga saaro dadkeenuna waa dad shacab wada muslimiina sidaa la sheegay 100% waa dad muslimiina ma waafaqsani runtii kelimada islaamiyiin iyo in loo kala saaro dadka soomaali kale loo kala saaro islaamiyiinta sida sheekh maxamed idriis baxthi dheer ama qoraalo laga sameeyey waa kelimad reer galbeedku ay sameeyeen islaam waxa la yiraahdo ma aha kelimad sax ah marka in anigana ku raacno oo daba socono ma aha dadka Soomaaliyeed waa shacab muslimiin marka dadka Soomaaliyeed muslimiinta bay dadku culimadooda u yihiin dhaxdayna uga jiraan haddii ay maaragtay siyaasad ay noqotona qof kamid ah hebel iyagoo bay siyaasadda qabanayaan waa maasantay يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعن آدي idinku sheegaya waxa waaye culimadeena Ilaahay ha xifdiyo